الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على من بعثته رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أحمد سبحانه وأشكره على النعم وآلائه كثيرا. وبعد waxaan aynu inoo socotay taxana aynu kaga hadlaynay cadaaladda guddoomiyaha maxkamadda sare. maantana waa cajeeladeeni shanaad waxayna ku saabsan tahay cadaalad daradii weyneed ee Jamaal Cali Xuseen lagu sameeyay. sidaynu ognahay Jamaal Cali Xuseen waxa uu soo galay xisbiga UCID oo xilliga urur ahaa. sidaynu cajeelada aynu ku faahfaahin doono waxay ku heshiiyeen qoladan Jamaal uu hogaaminaya ee ka timi udub iyo qoladii UCID ay isku biiraan, Jamaalna uu noqdo musharaxoodii. sidaas ayay heshiis ku ahaa. Faysalna sidaas ku aqbalay. xisbigii way u wada guntadeen labadoodu. uu soo baxay xisbigii. markuu soo baxay waxa ku dhacay dagaal aad u weyn oo dhinacyo badan ka imanaya. dhinaca xisbiga kulmiye ka imanaya oo Muuse Biixi u arko in musharaxnimada Jamaal Cali Xuseen ay dhaawac ku tahay musharaxnimadiisa, oo dowladii aynu arki doono oo aanu kala hadhin ninka loo adeegsaday ee hawsha fuliyay aynu dib ka arki karno uu yahay guddoomiyaha maxkamadda sare. aynu arki karno siduu markii ugu horeysay uga garnaqay. aynu xagga dambe ku arki karno isagoo cajeelado kale oo dhowr soo saaray uu ku sii adkeynay go'aankiisa. waxba yaana hadalka idinku badinin. waynu eegi doonaa cajeeladan Jamaal Cali Xuseen insha allahu. sheekadan waxay ku arki doonaa gabaygii Hadraawi uu lahaa ee Goljanne uu kaga hadlayay ee ninkii Geedsmariska ahaa, iyo sheekadan guddoomiyaha maxkamadda sare haddaynu si fiican isku saarno inay isqabsanayaan insha allahu. waynu eegi doonaa. wax la guyaal hore bahal Geedsmarisa maqlay gobol islaamo wadaadka sabaxay raba gadh intuu samaysto kutub garabka soo suray soo gaadhay beeshi. yani isagoo wadaad iska dhigay markuu maqlay wadaad baa loo baahayay intuu kutub iyo alaab soo qatay. wadaadkii baan hay hadba dadabta loo gee, hadba goola loo loog, bari iyo lag loo gee, galad loogu roonaa hoosna gaadhku kala socod. sidii wadaad loo sharfi jiray baa loo sharfay. ilaa wadaad baa loo baahnaa, laakiin waa bal inaga hubsada layidhi. inaga hubsada kii salaada quraan buu akhrinaya. gaxankaha abaaraha sida weerka guure hadba reer ku soo gaas, hadba galab caraabaha masalaha gaboodkiiyo hoos galbeedka soo dhigay, gelin quga maqnaan waa guryihii ku farabaday, galgal iyo xasradkeed gacanga dhaafna lagu arag. waa wadaadkii dhammaan isla waxbuu waxaynaya ayaa qabqaladiisi laga fadhiisan kari waay. gungunuuska beenta ah ku galgalay quraankii guudaankii dhaywa goosan lumay bariin waa lagu barigadiisii inaan geedibaabow naf gunaanadkeedii garashada ku dheerayn misna gogasha loo badi. markii dee loo qofka ilaha xirfad baan leeyahay oo skill baan leeyahay, markii dee wax loo dhiibo hadduu garan waayo dee markiiba waa la ogaadaa. laakiin dadka Soomaalidu markiiba waxba garanaysa naga tag ma yidhaahdaan, way u seeta dheereeyaan. aad buu dheeryahay oo ma wada dhamayn karno. adu aakhirkii waa la ogaaday inaanu ninkani ahayn nin wadaada ee uu yahay Geedsmaris bahal uu yahay wax xun uu yahay. kadibna si aan sharaf lahayn ayaa loo eriyay. isna wuxuu yeelay ee Hadraawi ka hadlaya isna geedibaabow galalkii khamiiskiyo giraangiri kitaabkii dhamaa u lahaa quraan balaqaana geedkaa loo u diga rogay miciihii ka haydhiyo daba goojinaysiyo gawsihii u sheelnaa gibishii u duubnayd gashay saamihiisii gaaleemadii tur gafi waa runtiisii wuxuu ahaa. waa sheekadan ayay ku saabsan tahay. sheekadan ayay ku qiimeynaynaa iyo ta dambe ee sheekada soo socotay qaybta 6 insha allahu. daawasho wanaagsan. markii uu ku soo hungoobay Jamaal Cali Xuseen xisbiga udub jabaatan ay ka soo gaadhay ayaa isagoo wali siyaasadii ku jira oo aan ka bixin waxa ay uu damcay inuu ku biiro xisbiga UCID oo uu la soo xidhiidhay Faysal Cali Waraabe. horta intaynaan u gudbin bal xisbiga UCID iyo hawlihiisa bal aynu eegno siduu ugu soo biray xisbiga UCID
jamaal cali xuseen oo ka sheekeynaya faysal cali waraabe ilaa muddo waa isnaqaan inta uu siyaasadda ku jiray maxay ahaydey inaan saaxiib nahay baa iskaaga baray faysal aad buu telefoonka iigu soo diri jiray inta badan oo ila socodsiin jiray kulba wararka Somaliland iyo arrimaha ay wax marayaan talooyinna way weydiin jiray oo markaan anigu bank ka shaqeynayay waddanka jooga Ivory Coast la ilaa aan deganaa ilaa markii dambe dalka Tanzania aan soo degay waxa dhici jirtay marka uu Faysal nin siyaasad ku jira caawimo u baahan tan oo sax dhaqaale iyo xaq talooyinba wixii aan ka geysan karayo kulba aan ka geysan jiray anigu markii ugu horeysay Faysal xiriir ku lahayn markii dambe anigu siyaasadda toos soo galay xisbiga udub soo galayna maxay ahaydey markii dambe aad ogeed xaaladii xisbiga udub iyo dhibaatooyinka ka dhacay kadib ayaa maalmaha kamid anigoo marka wali aan shaqada ka tagin laakiin xisbiga udub musharax ka ah oo tartankiisa hawlihiisa xaaladiisa ku jira iyo mudane maxay ahaydey Faysal Cali Waraabe la soo hadlay dibadda la soo hadlay markaas uu yiri war arkaya oo xisbiga udub dhibaataan anaga qudayaduna caawimo u baahanahay hiil baan u baahanahay oo markaa kala jabtay xisbigana oo aad u weeqimay oo markaa urur tartan ururna la gelayo oo markaa urur ku soo haray ay Faysal la soo hadlay uu yiri warniyow halkan buu musharaxa doonay sid waan ka siinayna anagana nacaawi oo xisbigana la soo saar xisbigana wuxuu baahan yahay in aniguna maartay dhaqaalahaan hadii noqoto burburay hadii noqonayso maxay ahaydey dadkiina iyo wax badan siyaasadda ku soo jiray dhibaato badan oo iga soo gaadhay xisbigooda tartan cusubna waa la gelayaa urur galaya ilaa 15 markaa mariyay marka Faysal isaga ninkii initiative-ka markii uu horeysay talabadii uu horeysay ninka qaatay ila soo xiriiray isagu igu yiri waan soo dhaweynaynaa bal noo kaalay runtii shukaansanayay marka ila hadlayay laha warniyo aynu wax isku darsan cali xuseen oo in yar ka hor ku soo burburay xisbigii udub dhaqaale badina uu kaga soo baabay ayaa way aragnimadu waxay bartay markii uu u yeeray Faysal Cali Waraabe inaanu ku qancin Faysal Cali Waraabe uu yiraahdo markhaatiyaal waliba beeshaada ragga ugu waaweyn oo sultaanka guud uu kamid yahay iyo Xaaji Cabdi Waraabe inaad la timaadid sidaas oo kale Jamaalna odayaashiisii u waaweyna ayuu keenay goobta oo ay labadooduba markhaati ka noqdeen balaynu eegno Jamaal oo mar labaad inoo sharaxaya markii aan odayada dhaqanka iyo dhalinyaradii wax karadkii la tashaday runtii shaka badan bay ka muujiyeen Faysal Cali Waraabe lahaayeen waxaan ka baqanaynaa inuu isbedel badan u noqdo midiyahana aad bay uga socotay barigaas waxa la lahaa yaanu Jamaal waxba ku darsan Faysal laakiin anagu aan calaawadaynay odayaduna waxay yiraahdeen war waxaan u baahanahay Faysal cid garanti naga siisa ama Faysal tiraahda maartay xarigiisa baa loo baahayay oo odayaashiisa Faysal odayaashiisa soo kaxaystay dhaqanka salaadintaasi iyo odayaashaas oo Xaaji Cabdi Waraabe ugu horeeyay waragii uu soo kaxaystay weeyaan Faysal Sultaan Maxamed Cabdul Qaadir iyo Xaaji Cabdi Waraabe odayaasha runtii sharafta leh ee wanaagsan beeshiisa ka tirsan waragii uu Faysal soo kaxaystay nagu qancinayay inaan Faysal wax la galo marka odayadii dhinacay ka socday wax garadkii dhinacay ka socdeen waxay yiraahdeen ilaa aan odayada aan aragno oo ay heshiiska markhaati ka noqdaan wax ma dhacayaan oo ku taageeri karmayno sababta Faysal baan ay calaamad su'aal ay runtii xilligaas saaray markii 12 July 2012 waxa xaflad weyn halkan loogu sameeyay Jamaal Cali Xuseen garabku hogaaminaya ka soo gaay xisbiga udub iyo bahweyntii xisbiga ucid ee uu hogaaminayay gudoomiye Faysal Cali Waraabe kadib markii ay dhameysteen dhammaan wixii caqabada ee hor yaalay labadoodaba balaynu eegno xafladu say u dhacday hadaladii ay halka ka soo jeediyeen Jamaal iyo Faysal iyo waliba Jamaal oo magacaabay ku-xigeenkiisii xoghayaha guud ee xisbiga iyo rag kale balaynu wada dhageysano heshiiskan waxa kamida koow labada dhinac waxay isla garteen
in tirada golaha dhexe la ballaadhiyo oo laga dhigo 251 xubnood. tiradaas waxaa loo kala qaatay 100 xubnood oo uu soo magacaabi doonaan garabka Jamaal Cali Xuseen hogaamiye ka soo baxay urur. 100 xubnoodna waxa qaadanaya xisbiga UCID. 51 ka harayna waxa laga dhigayaa raseed. sidoo kale waxa la isla qaatay in Jamaal Cali Xuseen uu yahay murashaxa rasmiga ah ee xisbiga UCID uga qayb galaya doorashada madaxtooyada ee soo socota ee lagu wado inay qabsoonto 2015 haddii la yidhaahdo. sidoo kale waxa xisbiga waxa la isla qaatay inuu Jamaal Cali Xuseen kadib marka uu la tashado hoggaanka sare xisbiga iyo gudoomiyaha xisbiga Injineer Faysal Cali Waraabe inuu soo xusho musharaxa jagada madaxweyne ku-xigeenka. qodobka labaad waxay ku heshiiyeen labada dhinac iyadoo lagu duulaayo xeerkii cusbaa ee lagu ansixiyey shirweynihii xisbiga UCID. labada dhinac waxay ku heshiiyeen inay labadana waxay ku heshiisay ku xaqiijinayaan in hoggaanka xisbiga UCID ee hormuudka uu ka yahay gudoomiye Faysal Cali Waraabe ee lagu doortay shirweynihii xisbiga ee saddexaad ay sidoodii ahaanayaan. waxa ku soo kordhaya hoggaanka xisbiga 2 xubnood oo kala ah xogayaha guud ee xisbiga UCID iyo gudoomiye ku-xigeenka saddexaad oo ka iman doona garabka cusub ee Jamaal Cali Xuseen. qodobka saddexaad labada dhinac waxay ku heshiiyeen in sida ugu dhaqsaha badan loo howlgeliyo guddi qabanqaabo oo ka shaqaysa qabsoomidda kalfadhiga afraad ee golaha dhexe ee xisbiga UCID iyo shirweyne guud oo aan caadi ahayn. shirka golaha dhexe iyo shirweynaha ee xisbiga waxay ku ansixin doonaan dhammaanba qodobada heshiiskan. sidoo kale waxay meel marinayaan wixii kaabis ah iyo wax ka bedel ah ee lagu sameynayo xeerka guud ee xisbiga. sidoo kale waxay labada dhinac isla meel dhigeen in dhammaanba xogayaasha xisbiga iyo guddi hoosaada xisbiga si siman loo kala qaadan doono. waxay gaadhay meel fiican bay gaadhay walaalayaal. ma aha micnuhu inuu qofku gaadho halkuu doonaya waxa weeye inay mabaadi'da qofku uu abuuray iyo xisbigu abuuray inuu gaadho halkii uu la doonayay dalkiisa uu hogaamiyo iyadoo la eegin qofka keenaya. waxaan jeclahanay maanta arrintan aan samaynay inay mar kale haddana taariikh cusub oo boogga ee Somaliland ka geli doonta ee xisbiga UCID noqon doona. waxaan hubaa maanta Jamaal Cali Xuseen nin ka habboon oo Somaliland ah oo faraska looga degi kara aanu jirin oo ninkaan nin dhaama aanu jirin baan hubaa. yar ka oran doonaa xisbiga UCID ee uu hogaaminayo Faysal Cali Waraabe oo si sharaf leh oo qiimo leh oo qaaya leh loo soo dhaweeyay. aad iyo aadna waan ugu mahadinayaa. maanta waxaan ka cadaynayaa inaan wax lacaga ama shuruuda ama 300 oo meel la dhigayo inaan lagu xirin $1 ilaahay ha ka dhigay. waxa weeyaan taasina waa mid goobannimo leh oo ka muuqata xisbiga UCID. waa dad doonaya in xisbigoodu soo baxo laakiin nasiib darro hoggaankii xisbiga udub ee anigu markii hore la joogay u malayn maayo inay daacad ka ahaayeen in xisbigoodu soo baxo. dadkii aan u magacaabaynay dhinacayagu xisbiga UCID aan halka ka shaaciyo waxa ugu horeeya musharaxa igula tartami doona shaqada madaxweynaha oo noqon doona madaxweyne ku-xigeenka musharaxiisa ee xisbiga UCID haddii ilaahay yiraahdo marka la gaaro 2015 waxa uu noqon doonaa Cabdirashiid Xasan Mataan oo noqon doona ku-xigeenka musharaxa. Cabdirashiid Xasan Mataan waxa weeyaan waa nin ka soo jeeda gobolka Awdal, waa nin aqoon-yahan weyn ah. waxaa jira oo isna halkan aan ka sheegaya أحمد آدم إسماعيل كيسه oo ah xubin ka tirsanaa guddigii fulinta iyo golihii dhexe xisbiga UCID wasiirka xigeenkii hore ee ahaan jiray arrimaha dibadda. nin qiimo leh oo qaaya leh oo ah ka mid ah dadka aan u soo wada digaroognay xisbiga UCID
waxa uu noqon doonaa xogayaha guud ee xisbiga ucud qofka saddexaad waxa uu noqon doonaa cabdirasaaq maxamuud saleebaan oo ku magac dheer mingiste oo degan magaalada london imika waxaanu noqon doonaa xogayaha arrimaha gudaha ee xisbiga ucud inuu eegno markii ay dhammaatay in jamaal cali xuseen loo doortay inuu yahay musharaxa xisbiga ucid ee doorashada soo socota ayaa jamaal waxa uu sameeyey wuxuu juhdi ama dadaal ama hanti ama maskax inuu dul dhigo xisbiga ucid oo hadda ah urur siduu uga saari lahaa ururnimada ee u gaadhsiin lahaa xisbi ama asxaabta dalka ee saddexda inuu ka mid noqdo bal aynu aagno jamaal oo ka sheekaynaya siduu juhdiga ama dadaalka uu xisbiga uu geliyey inta ay leeg tahay xisbiga dhaqaale u baahnaa lagu dhiso wad garanaysaa doorasho la gelayo waxa weeye dhaqaale aad u fara badan bay u baahantay marka uu Faysal dee wada hadlaynay Faysal wuxuu wartaan u dhaqaale ma hayo zero baan ka taagan hatta xaflad daimka la qabanayo aan waxba idin kala bixin karin maxay hayday dee waana xisbigana dhista dhaqaalihiisana bixiya haddaad doonaysaan in musharaxiin ka noqotaan rasmi horta xisbiga soo saarta way idinkaas shaqaysta saasuu nagu yiri gudoomiyuhu marka anaga xoog iyo maal iyo muruqba degelinay oo ilaa galbeed ilaa bari raga gooshayay istagay anaga aan ahayn gudoomiyaha mu ahayn dadka musharaxiinta dadka golaha deegaanka ku tartamayay xisbiga nin walba anaga gurigiisa ku garaacno anaga keenay anaga magacayga iyo karaamadayda sharafteeda ku yimid qofku ninka golaha deegaanka iska sharaxay anaga dad ba xataa nooga soo baxay urur kale anaga daraaday noogu yimid xisbiga say iska sharaxaan noogu yimid anaga dartay marka musharaxiintii baan ku dadaalay inaan galbeed iyo bari iyo meel walba anigu ilaa laascaanood baan tagay ceerigaa baan tagay meel aan dalka tagay ma jirto oo musharaxiinta anaa soo xilay mid walba keenayo halkiisa fadhiisanayo gudoomiyuhu doorashadaasi dee mar uu burcaan loo gaarin mooyaan xataa gabiil muu gaarin hargeysu inta badan fadhiyo dadka shaqaynaya dee wareegayay inta badan anagu bay ahayd intayada wareegaynay xilliga cabdirashiid shaqada kama iman laakiin cabdirashiid waa dadaalay oo isagu kolba wuxuu markuu yimaado musharaxiinta gobolkiisana uu soo xulay wixii dhaqaale ku baxaya galbeedka isaga culayska naga qaaday oo hadday noqonayso boorameeye salli ay noqonaysaa waad ogtoo doorasho marka la gelayo maalinta qura la soo baxo ayaa maalintaa quraata $50,000 baa naga bixi jiray one day keliyaata oo jeefkayga ka bixinay marka waxa dhacday markii aanu musharaxiintii isu wada keenay ayaa waxa dhacday xisbigii kulmiye ayaa wuxuu yiri musharaxiinta iyada fiiga oo ka bixinay musharax kasta oo golaha deegaanka almost 1 milyan iyo dheeraad baa laga bixinay ya intaasoo musharax waa 1,000 iyo dheeraad musharax lacagtoodii fiigoodii musharaxiinta waxay wadadaan xisbiga aan naga bixin karin ururka naga bixin karin waxba dama tiidin way nagu kalaftay inaan booqadkayga ka bixino ya lacag ilaa $180,000 gaaraya ma bixinay isla markiiba fiigii musharaxiinta anaga bixinay jeefkayga ka bixinay Faysal shilin kuma darsan haddaba December 26-keedii 2012 ayaa guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta axsaabta ee Jamhuuriyadda Somaliland waxay ku dhawaaqeen inay 3 xisbi oo kaliya ay u soo baxeen axsaabta qaranka intii ka soo hadhnayna aanay soo bixin 3 xisbi oo number 1 uu galay xisbiga kulmiye number 2 uu galay xisbiga wadani halka kaalinta 3aad uu galay xisbiga ucid sidaa daraadeed xisbiga ucid uu ka mid yahay axsaabta qaranka ee soo baxay haddaba halkii laga filayay in ay labada garab aad isugu soo dhawaadaan maadaama labadooduba juhdi aad u fara badan ay geliyeen inuu xisbigu soo baxo ayaa isla soo bixitaankii xisbiga ayaa waxa kowsaday isafgaran waa kan Jamaal Cali Xuseen oo ka sheekeynaya mar allaaliyo markii doorashadii aan ku soo baxnay ya ay horta isbedel muuqda oo ninkii gudoomiyaha Faysal Cali Warame uu kiyay isagoo markaa horta dafraad bilaabay maxaa ku darsataan xisbiga maxaa kan kale samaysan lugjiid meera khilaafkani aad reemku si fiican awal boor shakisnay awal baxamxamta meelaha waan ka maqlay gudoomiyaha dabadeeda uu ka hadlay jiray dad badan waa noo soo sheegi jiray waana la yaabi jirnay in gudoomiyaha xisbi ku ahoo
ay ahayd adigu inuu ku dhiso inuu dabada kaa xanto adiga ku masaxo subxaan allah heedo oo dee munaafiqnimo badan ay ka muuqato laakiin wax cad oo aan ku haynay oo dee evidence damage waxaan si rasmi u bilaabay markuu cadaystay media ka cadaystay soo kala dhaxgalay sidaynu hore u soo aragnay musharax Jamaal Cali Xuseen iyo gudoomiye Faysal Cali Waraabe Madmadow oo bilowsaday markuu xisbigu soo baxay aynu eegno Faysal Cali Waraabe oo taagan in musharaxnimada Jamaal Cali Xuseen aanay ahayn mid dhab ah ee in la tartamo oo mar dambe dib qiimeyn lagu sameeyo isagoo la waa kan waxaa ka cadaatay si aanu markii hore u sheegnay inaanu heshiiskan kooxda la galay heshiis hirgalay ahayn aanu Jamaal musharax ahayn golaha dhexe aanu ku jirin golaha dhexe yahay 181 shirweyne lagu doortay Ali Guri aanu ku doonay ku xigeen saddexaad ahayn oo shirweynihii aan lagu dooran ku dambe laga ansixinay aanu jirin heshiis waa heshiis aan dhamaystirnayn oo sharciyoobin aan la galay inta sheegnay war musharax ninkan maaha wixii mu hirgelin saddex sano bar walaha musharax baan lacag ku urursanay inaan meeshii ka baxday diidnay hadallada dilqaafka ee saxaafadda marinayo imika waxa kamid ah hadaladan diidna kamid ah tartan baa la galay xisbi ka kala tali galay xisbi doorasho soo galo tartan lagu soo galay si tartan dib loogu galay already balka waran imika Muuse Biixi iyo groupka la doortay kulmiye oo haddana la ilaa tartan damba loo qabanaya ya miyana qalalaasa keeni la doorto oo tartan galo oo doorasho uu galo sidee buu doorasho kala dib u galay sharcigii bay baalmarsan tahay ee ka gudoomiye Faysal Cali Waraabe sharci buu ku joogaa 5 sanadood baa la doortay shirweynihii wax lagu doortay 2012 soo 5 sanadood dib u joogay Soomaa miyaan oran karayaa tartan baa la galay hataa ilaahdo soo dib sharcigii baalman maayo musharaxiintuna gola dhaxal lagu doortay gola dhixii hadii lagu doortay ilaa ay doorasho ka galayaan adeer hadii doorashada ku waayaan mooyaane hadii la yiraahdo hadan doorasho kale lagu qabanaya damiyana waa leeyahay nidaamkii sharcigii iyo dastuurkii iyo kala dambeyntii wixii maani dhaawacay waxaas markii xisbigu uu sii daba jeetamay doorashooyin ay ku soo fool leeyihiin waxa wada shiray Jamaal Cali Xuseen iyo ku-xigeenkiisa Cabdirashiid waxaanay isku maandhaafeen sidii xisbiga loo maamuli lahaa halka Cabdirashiid uu taagnaa in la tago maxkamad oo halka lagu soo calaf qaado halka uu Jamaal taagnaa warbal aynu waanwaanta ku eegno isagoo Cabdirashiid u arkay inaanay waanwaan aanay xal keenaynin kadibna waxaa timi markay kala aragti noqdeen inuu iscasilo Cabdirashiid balaynu eegno iscasilaadii Cabdirashiid oo aan kasii dambaysin doono Jamaal aragtidiisa iyo Jamaal oo ka sheekeynayay u kala aragtidu wanaayeen khilaafka niyoocidna ma aha mid cusub ee waa mid la dhashay markii uu soo baxay xisbigu oo uu ku soo baxay doorashadii 2012 oo uu ku soo baxay musharaxnimadayadii iyo taageeradii bulshada Soomaaliland ay nagu siisay khilaafkaasi waxa uu kali ku ahaa gudoomiye Faysal iyo murashax Jamaal Cali Xuseen waxaan waqti badan gelinay inaanu maarayno hase yeeshee dagaalo badan oo ku socday xisbiga wacid waxa mar walba suurta gelinayay in si kala fogaadaan iyadoo taasna iyaga laftooda ay qayb ka ahaayeen markaan soo koobana xisbigu waxa maalin walba la jarayay xidid iyo xubin ka mid ah dabayaaqadii bishii ina dhaaftay Oktoobar waxa bilaabmay afduubkii xisbiga kulmiye oo laba waji ah wajigiisa hore waa ogtiin oo uu soo dhamaystirmay wajiga labaadna waa mid loo adeegsanayo injineer Faysal Cali Waraabe burburinta xisbiga wacid si aanu noqon mid tartan lagu gali karo marka guuxa iyo shirarka aad maqlayseen ee aan ka soo bixin haba yaraatay war sugan waxa uu habal in laga badbaadin karo xisbiga burbur iyadoo si sharciyo loo raadinayo iyadoo mid dhaqan lagu raadinayo labadaba injineer Faysal Cali Waraabe laba jeer hore ayuu tartamay oo uu ku guul daraystay taariikh fiican bay u noqon lahayd
in sidii uu heshiiska ku galay ee lagu ansixiyey xisbigii niyuucid uu daacad u noqdo kuna fuliyo hase yeeshee waxa uu ka doorbiday taariikh madow iyo khayaamo isagoo loo adeegsaday inuu si rasmiya u xabaalo xisbiga ucid oo noqonaya xisbigii labaad ee intii talada ay haysay xisbiga kulmiye la burburiyo ama la fuliyo burburintiisa waxaan se ka xumahay in xisbigii laftiisa aan ka badbaadin kari waayo shirqool uu qayb ka yahay guddoomiye faysal isla markaana aanu isu aragti ka noqon weynay murashax jamaal cali xuseen badbaadada xisbiga cadaaladda iyo daryeelka haddaba anigu qof ahaan waxaan ku qancay inaanan waqti intaa ka badan kastii lumin karin shacabkii ku qanacsanaa hogaamintayda iyo taageerayaashiiba waxaanan halkan si rasmi ah ugaga dhawaaqayaa inaan gebi ahaanba kala baxay musharaxnimadaydii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka xasan mataano waa saaxiibkay waxa uu ka hadlayna waa runtii weeye waan ku waafaqsanahay go'aamadii waxa ilaw ka hadlay kuma waafaqsanaysa inuu xisbiga ka carro inuu la dagaalamo ayaan filay oo ilaa all the way uu la socdo ayaan jeclaa ku eedayn maayo waa saaxiibkay shakhsigu wuxuu leeyahay hami buu leeyahay sidoo doonu samayn karaya laakiin waxaan leeyahay waxaan ka jeclaa in dalkan wixii aan doonayno inaan ka bedelo inaanu tareenkayga degine ilaa all the way la socdo xisbiga isaga soo saaray xisbiga qaybtiisa galbeed haday noqonayso awdal iyo selal xoolihiisa iyo maalkiisa buu ku bixiyay sida anigu ugu bixiyay sida rag badan oo musharaxiina oo xisbiga ka tartamay ay ugu bixiyeen ay guryahoodii ugu iibiyeen Faysal Cali Waraabe inuu kaliya aftuubto waxa aanu isagu ku tabcin ka ogolaan mayno kana yeeli mayno maanta waxa jirta waan baa jirta oo aan ka mid sugayna waantaasi waxa way mid xisbiga gudihiisa ka socota iyo mid dhaqan ah oo iyaduna socota waqti baanu siinayna waqtigeeda ayaan siinayna halkii aan Cabdirashiid ku kala hadhayna waxa ahayd anu halkan lahaa war waqti aynu siino oo aynu sugno oo yeynaan degdegin Cabdirashiidna uu doonayay inaan bahasha aynu maxkamad markaba aynu geeyno oo sharciga la tiisano anoo waxa la war sharciga lama gaadhin horta bal waan ha lagu wado xisbiga u aftuumnaan maayo shakhsi quraata doona Jamaal Cali Xuseen oo u tar sheeganaya Faysal Cali Waraabe kana waramaya heerkii uu soo gaarsiiyay xisbiga ucid iyo sidoo ugu yimi xisbiga oo gabaahir fadhiya dadaal badan iyo guulad kadibna uu gaarsiiyay halka uu maanta gaarsiisan yahay balaynu eegno Jamaal xisbiga 90% qurbaha intuu ka dhisan yahay anaga soo dhisay gobolada xisbiga dad si u eegtid boorama gabiilay berbera burco anaga furnay ilaa hadda anaga lacagti furooyinkoodii wuxuu anaga bixinay xisbiga anaga wali jeefkay ka bixin xisbiga waxa anaga bixin mooyaan waxna ma soo galin wax Allah wax naga soo galin halka uu gudoomiyihiisa uu ka faa'iiday laftirkiisa xisbiga mar la markuu soo baxay $10,000 baa ay xukuumadda ay dawladdu ay siisay xisbiga oo loogu talagalay gobolada lagu dhiso gobolada laguma dhisay xafiiska maxay ahayd ku yaala maxay ahayd xarunta dhexe dib gudoomiyaha ka bixiyay inta yar shaqaalaha xisaab cilmi uu soo celin maanaan weydiin dadka iska qaadanay isagoo si doonana yeelay kolba markuu doonana madaxtooyada galay markuu doonana ka soo baxay xisbigaasi ilaa maalintii aan isku biirnay xafladii ugu horeysay ilaa maalintii gabagabadii wallaahi oo bilaahi waan iga dhaartay maan soo manahay halka dollar ee ku baxaa ana bixinay jabadda ka bixinay waxa uu ninka weyn oo shubay uu leeyahay Allah wax kaga bixin ma jiraan xisbiga cirku uga soo daatay lacag waatu looga dhulku aasnaay ya lacagta bixiyay xisbigu campaign cusub uu galwada ogeedano rallies buu galay xafladu dhiganay wariya Faysal Cali ruuxi iga filaan waayay gaastii baabuurkiisa uu salaxli ku tagay oo nagu shubay anigu lacagtii odayaashiisa siinayay biga qaaday maanta waxa weeyaan mismaan lahayn waxa soo dhashay وانا كحشوناي لكن سو يسلوها هنيك marka uu shaxaadkan dadku yiraahdo anigu musharax baan ninkaas musharax doorasho ka duwan Faysal waxa ninka markii xisbiyadu dhamaadeen tartankii wallahi billahi waariga dhaartay intuu lii soo qortay
yiri intaan iga baxday markaad ku maqnayd burco cabdinaasir waa jooga ya $12,000 16 bay ahayd mise 15 waa la helayaa ka baalkii uu soo qortay Faysal way ku jirto $2,000 isagu xisbiga amaahdi baan ugu celiyay Faysal xisbiga wallahi billahi waa iga dhaartay ninka dafiraad inta laga soo istaagay 20 December 2015 waxa rumowday ididiiladii uu ku naawilayay musharax Jamaal Cali Xuseen in mar uu soo dhamaato khilaafka xisbiga UCID oo laba dhinac ahaa mid ka dhex socday xisbiga UCID gudihiisa iyo mid dhaqan labadiiba way isku yimaadeen waxaana halka shir weyn lagu qabtay oo lagu sheegay in la soo dhameeyay dhammaan khilaafaadkii waxa halka ka hadlay Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir sultaanka guud ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa hadlay Sultan Shariif Batuun oo dhinaca kale u hadlayay waxa sidoo kale hadlay Cabdikariin Aar oo kamida xubin guddiga khilaafaadka waqtiga oo aad inoogu yar aynu soo qaadano oo kaliya Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir iyo laba kalmadood oo Sultan Shariif Batuuna بريان dambe waxa iska yara jirtay waxoogaa khilaaf oo xisbiga dhexdiisa ka jiray laakiin maanta ayaan soo afjaray wax khilaafina ma jiro waana la isku gacan qaatay sidii horeba uu sheegay gudoomiyaha xisbigu wuxuu yiri Jamaal baa musharaxa anu musharax ma yihi laakiin anu gudoomiyaha xisbigaan ahay golo dhaxana waa u dhisay golii dhexe waana la dhisay inta ka dhiman laakiin wax marnaba isagu yidhi anaa musharaxa afkiisa kamaan maqal dadku ku tiri ku teenta way iska buunbuuniyaan oo waxaan jirin bay iskaga hadlaan Faysal waa ka bari midka lagu eedaynayo ayaan anigu leeyahay oo dhagahaygan ku maqliyaa xitaa heshiiska maalintii Jamaal wada galeen waanu fadhiinay aniga iyo Xaaji Cabdi Waraabe iyo rag badan baa fadhiyay iyo Khadar Axmed Likayo heshiisna laba qof halkay ku heshiiyaan macluum ma labada qof oo qura heshiye beel dhan ba heshiisay arrinkan waa arrin siyaasi ah wax xisbi dhan weeye laakiin waxa loo baahan yahay labada reer isbahaystay in xisbigii ka soo dhalaalaan oo dhistaan oo gurmad loo galo hawshii halkan bariyaha ka jirtay ee muddada dheer aan soo wadnay ee labada dhinac ahayd si wanaagsan oo isafkarada oo midha dhalin doonto ummaduna mahadin doonto ayay ku dhamaatay 26 December 2015 Sultan Maxamed Sultan Cabdiqaadir oo ka hadlay xaflad uu ku soo biiray xisbiga wadani ayaa wuxuu ka dhex sheegay in aan uu la kulmay gudoomiyaha xisbiga UCID Faysal Cali Waraabe oo uu ogaaday inuu Faysal Cali Waraabe damacsan yahay inaanu marnaba la heshiinin musharax Jamaal Cali Xuseen wuxuuna kula taliyay intay goor tahay inuu ka tasho xisbiga UCID oo aan wax allaali wax u yaala aanu jirin ay sultaanku ka sheegay shirka waana kan sultaanku xisbigaas ummadda aan waxbana u ahayn wuxuu tagay wuxuu qabanay sababta oo keentay ninkii musharaxa u ahaa ayuu maanta rag kale ka tulkeen waxaan leeyahay Jamaal Cali Xuseen adigu ceelka bintiisii waa ogahay waxaan kugula talin lahaa yaan been ugu haasaawiyo run haddaad doonayso adigu waa meesha iskaga dhaqaaqay 27 Abriil 2016 afar bilood kadib markuu sultaanku kula dardaarmay Jamaal Cali Xuseen inuu xamaamtiisa ka urursado xisbiga UCID ayuu garwaaqsaday in aanu Jamaal inaan loo taageeri karin Faysal Cali Waraabe kadibna wuxuu u gudbiyay guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda isagoo qaryaqaan oo qabsaday Maxamed Saciid Xirsi bal aynu eegno Jamaal oo maxkamad geynaya qaryaqaankuna uu hadlayo xukuumadda uu yiraahdo lacag igu soo siiya Jamaal Cali Xuseen baan dilayaa halkaas uu marinayaa dilaalno markaa imika go'aan aanu qaadanay bahalka inaan maxkamad geyno sharciga in la isla tiigsado
jamaal cali xuseen musharaxa madaxweynaha xisbiga macaaridka ee ucid iyo guddoomiye ku-xigeenkii saddexaad ee xisbigaasi ucid cali maxamed yuusuf cali guray oo ay wehelinayeen garyaqaano xildhibaano saraakiil sarsare oo ka tirsan xisbiga ucid ayaa waxay dacwad u gudbiyeen guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda aanay kulan albaabadu u xidhan yihiin la yeesheen guddigaasi kulankaasi kadibna waxaa bahda warka faafisa si wada jira ula hadlay garyaqaanada u doodaya dacwadda oo guddiga diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka waynu hadda hortaaganahay waa taa way qabteen wixii tallaabooyinana habka sharci iyagaa laga sugayaa inay kolley process bay qaadanaysaa muddo haddaba waxaynu eegi doonaa jamaal cali xuseen oo isbarbardhig ku samaynaya madaxweyne Silaaye iyo madaxweyne Riyaale halka ay ka kala taagan yihiin dimuqraadiyadda iyo isaga mowqifkiisa ku aadan bal wuxuu yeeli doono haddii dhinac laga wada maro oo laga eexdo mudana daahir Riyaale kaahin waxa uu taariikhda ku galay oo lagu xasuustaa inuu yahay madaxweynaha 4 doorasho oo xor xalaa dalka ka sameeyay mudana daahir Riyaale muu faragelin jirin xisbiyada mucaaradka inuu kala wiiqo hantidii ummadda lagu soo qaaday tamaandhada dadka carruurta laga soo islaamaha laga soo qaaday cashuurta laga soo qeeyay in dadkii mucaaradka lagu wiiqo daahir Riyaale muu isticmaali jirin xisb burburayna muu jirin ilaa intuu talada hayay isagu laakiin waxaad arkaysaa maanta madaxweyne Silaayana ceeb bay ku tahay xisbiga kulmiyana ceeb bay ku tahay ee talada haya in xilliga ay talada hayeen haddii ay laba xisbiyo waaweyn ay hawada ka baxaan ceeb bay ku tahay iyagana dimuqraadiyana ceeb bay ku tahay waxaan idin sheegayaa xisbiga ucud khilaafkiisan hadduu sii socdo khilaafkii ugu weynaa ee dalka soo mara ayuu noqonayaa Faysal Cali Waraamo taariikhda wuxuu ku gelayaa ninkii xisbigiisa uu horseeday burbur 2 jeer maxkamad la isla galay haddana ka waantoobin dee arrimahan jira waxaan waa shuruuc cidna ma farmarsan karto cidna lama dhici karayo meel is xoogaya meesha sharciga lagu kala baxaya dadka haddii anigoo musharaxa oo golo dhaxeeyay ansixiyay oo hawsheedii watay oo ummadoo dhan u weyd sidaa lagu sameyn karayo qofka caadiga ah maxaa lagu sameynaya in maalin qaawin la weero anigu laakiin nin ogolaanaya ma yahay waxaas oo dhan nin all the way la soconayaan oo aan ka daba haray tan noqonaysa xukuumadda aan ka daba harin iyo deegaan si gudoomiyaha sideedaba nin xaqiisa ka haray ma yahay maalin sababta haddaan xaqayga ka haro ummadan sidana hogaamiye ugu noqonaya aniga xaqayga shan kar leh sidan iyaga laftigooda xaqooda ugu soo dhicinaya haddaba 22 July 2016 waxa afayeenka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta jamhuuriyadda Somaliland ayaa ku dhawaaqay go'aamada Xasan Macalin bal aynu dhageysano Xasan Macalin oo ku dhawaaqaya dacwadda ka garnaqayeen waxay go'aamisay guddiga kow in xisbiga ucud labadiisa garab qabsadaan shirweyne aan caadi ahayn muddo 45 casho gudahooda oo ka bilaabmaysa 22 bisha 7 2016 laba in labada garab soo magacaabo guddi maamushaha shirweynaha oo tiro isleega saddex in guddida tiradeedu waa 10 xubnood oo labada garab soo magacaabayaan 5 xubnood waxaana loo soo gudbinayaa guddida diiwaangelinta guddidaas waxay iska dhex dooranaysaa guddoomiye iyo xogeyn fulineed oo midba garab yahay guddidu waxay si isleeg u soo xulayaan ergada shirweynaha guddidu waxay maamulaysaa shirweynaha ilaa inta go'aamadiisu ka soo baxaya kharashka shirka wuxuu ka imanayaa labada garab si isleeg 4 shirweynaha waxaa lagu ansixinayaa dhammaan qodobadii heshiiska labada garab iyo wax ka bedelkii xeerka guud ee xisbiga ucud heshiiskaas ku taariikhnaa 12 bishii 7 heshiiskii ku taariikhnaa inta wixii go'aam lagu gaaray baa lagu ansixinayaa golaha dhexe xisbiga ucud tiradiisa sharcigii waa 181 soo jeedinta sharciga waafaqsan ee ka taala waxa lagu dhameystirayaa shirweynaha murashaxa Jamaal Cali Xuseen
wuxuu murashaxnimada Jamaal Cali Xuseen waxay dhamaystirmaysaa marka shirweynuhu ansixiyo umana baahna shir golo dhexe oo dambe oo laga ansixiyo dishruuna ansixiyo علي محمد يوسف وهشيسكا لوغو ansixiyay gudoomiye ku xigeen saddexaad ee xisbiga wuxuu xilkiisu ku dhameystirmayaa marka uu ansixiyo shirweynuhu qodobadan koowaad ilaa 7 ee aynu soo sheegnay ee go'aanka waxay gudidu u cuskatay sida ku cad heshiiskii labada garab ee ku taariikhnaa 12 bishii 7 qodobadiisa koowaad iyo afraad cidii ku qanci weyda waxa u furxeen go'aankan waxa u furan inay rafcaan u qaataan maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland wabillahi tawfiiq gudida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland go'aanka ay soo saareen sida la garan karo waxa aad u soo dhaweeyay Jamaal Cali Xuseen oo ku tilmaamay inay tahay mid guul ah oo markii hore laga shirki qabay laakiin gudigu uu yahay gudi nadiif ah waa ka Jamaal Cali Xuseen oo ka hadlaya qabna go'aankii ka soo baxay gudida diiwaangelinta iyo ururada siyaasadda iyo asxaabta qaranka anagu waxaan u aragnaa horta nimankaasi way dadaaleen ilaa hambalyeena xaq bay u leeyihiin dadaal weyn bay sameeyeen dadkuna badankoodu way ka shakisanaayeen waxay islaahayeen oo nimankaasi malaha gar wanaagsan qaadi maaya anu nuxurka go'aankoodu wuxuu ahaa wax kala ma yahayn war laba garab buu xisbiga u cud u ku bahoobay oo awoodii xoog xisbiga la isugu geeyay xisbiguna saasuu xisbi qaran ku noqday markii ay dacwadii xalba dhageystay waxay leeyihiin war heshiiskiinii intii idinka dhinayd ee ahayd shirweynaha oo waliba uu Faysal Cali Waraabe ku doodayay intaasaa dhiman intii dhamaystiranaya Soomaalidu waxay tiraahdaa kol haddii nirita la wada leeyahay hashana waa la wada leeyahay maalintii aan xisbiga ucud u nimid ee xisbigii oo baaba'ay xisbigii ucud hore oo xisbiga 90% uu ku biiray xisbiga wadana la yiraahdo xisbigu soo baxay هذه حشي نشي النريك تانا كل يسكله قلت على جيه اللي يبغى جدد أنا وح كلام ما ينقني واحد سنين شيء كاسون لما يستوي له أنا واحد رميسان هاينا فيصل استحيل جدد فيصل الشرعية دي حسبك في قرق وحول بو كتب وانو دعوين واحد بدن باركو دعوين حرر بدن وشبيه باركو دعوين وحي أوردن ويكجوس أضيقينه لما كاس واحد سيداهدون بل حسبك اسكو هيو oo odayga u nasteexay waxana wad qaldantay kuma wada ilaa dadka siir wala adduunku siir wala yahay deewaan dadka u taaga bahal casoo yiraahdo wad qaldantay waraabo oo lagu yaqaan mowqifyo kala gidsan inuu istaago ayaa mowqifka ururada ansixinta iyo kala saarista ka istaagay saddex mowqif markii ugu horeysay oo ogolaaday markii labaad uu yiri waxaan waafajin doonaa dastuurkayga inta ogolaata inta kale oo ka toori doonaa markii saddexaadna wuxuu qoostay inuu ambil ka qaato kadib markii lagu la taliyay xukuumadda iyo xagga dambe ka arki doono aynu arkayno guddiga kala xalinta axsaabtu waxay gaadheen mowqif aad u wanaagsan oo ay ku ilaashadeen sharaftoodii marka waxaynu soo aragnay inuu Faysal qaatay ambil uu qaatay maxkamadda sare waxa halkan aynu ka bilaabaynaa doorka gudoomiyaha xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi oo u arkay haddii uu Jamaal sidan uu ku sii guuleysto oo uu noqdo musharaxa dhabta ee xisbiga ucid inuu la qaybsan doono codadka marka waxaynu hadda go'aamada dambe aynu ka dhaxarki doonaa Muuse Biixi oo faraha kula jira waana kan Jamaal Cali Xuseen oo arinta ka hadlaya waxa kaloo iyaduna jirta in uu musharaxa xisbiga kulmiye si bareera isaguna intuu halkaa u istaagay uu yiri murashaxa xisbiga uu ku sheegay gudoomiyaha iyaga injineer Faysal Cali Waraabe iyadoo ay awalba ogeyn oo aan cidna ka qarsoonayn
inuu muuse si bareera u burburinayo xisbiga ucud sidii uu soo burburiyay xisbigii kulmiye ee uu doonayay sidoo kolba laha qof iiga reeba hebel iiga reeba kan kale iiga reeba inuu doonay inuu xisbiga ucudna inuu yiraahdo musharax baan sameeysanaya anigu waraabo taaga waxa ka dhigantay marka kubadda la ciyaarayo ninka tiraahdo kaasi ma uu iga badinayaa ka kala doonayaan la ciyaaro kubadda oo waxyaalo dhaqan siyaasadeed aynaan weligeen aynaan arag oo ay ka muuqato dictatornimo iyo agajugleyn iyo maxay ahayd afdub dimuqraadiyadeed xisbiga ucud hoggaankiisii uu kala saartay darna waa hoggaanka xisbiga waa gudoomiyaha iyo wixii la halmaalaa darna waa musharaxiinta Soomaaliland oo dhan way ka warhaysay muuse ma bedeli karaysa afkiisana kuma bedeli karaayo wixii ay taageerayaasha xisbiga ucud ay doorteen ama ay sameeyeen muuse waa cidda doonaysa kula tartamayso xisbiga ucud cidda ay u calaamad saareen inay kula tartanto ayuunbaa kula tartamaysa ee raganimadaada isku soo istaaji laakiin muuse hadduu haysto inuu askari yahay oo hub haysto inuu siciidna uu haysto inuu lacag haysto oo lacagta wuxuu ku muqaninayo waxaan u sheegayaa in anigu shacabka Soomaaliland aan haysto oo aan mowjadnahay mowjadaasina ay jeeri doonto iyaga ucda u burburinayo isleeyahay waxba burburinaysa wallahi inaan habeen jirin waxba burburinay sidaas aan ku soconaysaa 4 sanadood ka hor isaga ka hor ma anagu musharax muuse waa uu cadaystay dagaal buu cadaystay inaan ninka Jamaal Cali Xuseen aan loo doonin tartamo waa fulay ila tartami kara ma in xinayla haduu yahay halkaas oo istaago la tartamo haduu isla hayo weey wuxuu kalba ugu marsanay hebel baa musharax hebel baa musharax wassalaamu alaykum warahmatullahi waxaa isna jira ganacsadaha weyn ina aw Saciid oo isna lacag iyo hanti la barbar socday Muuse Biixi soo bixitaankiisa ayaa isna u adeegsaday lacagtiisa si uu burburin lahaa xisbiga ucud isaga oo hiil iyo hooba la barbar taagnaa Muuse iyo burburinta xisbiga ucud bal aynu eegno Jamaal Cali Xuseen oo ka hadlaya iyo Mustafa Martin oo isna ka hadlaya aqoonyahan weyn oo inta badan taxliiliya arrimaha Soomaaliland iyo Maxamed Haarun aqoonyahanka isna saddexdaan nin oo qaadaan dhigaya waxaynu arintan uga sii hadlaynaa si aanay hadhowta fajiciso inooga noqon go'aamada aynu xagga dambe iyo ficilada aynu ku arki doono waxa soo dhan iga sii daran maanta oo halkan aan doonayo inaan kaga ilaahdo ninka Muuse dabada ka wada oo Soomaaliland oo dhan ay ka aamusan tahay Soomaaliland oo dhan dheeraad ku ah maalkiisuna uu fidmo ku yahay dalka Soomaaliland waninka la ilaa Ina Saciid weeye Ina Saciid oo ganacsada oo iska takooray ganacsadayaashii Soomaaliland ee jirtay oo dhan wanin siyaasadda faraha la galay wanin doonayo cid isagu doonayo inay kursiga fuusho oo dabada ku gulto warwaan arki jirnay cid taageerta waana xaq bay u leeyihiin qofku inuu cid doonayo uu taageero cid doonayo inuu lacag siiyo laakiin inuu cid kale yiraahdo soo burburi محمود أو سعيد وحوكي هالشرقوك حسبك وعد لو بربريناي نيك مالك سعودي باي فد مضع ما هو السقوية ما أنت هالكم حلوك شيء يا محمود أو سعيد رجع هدد قلوب كشيد هفيل إن صاب مال ويا ما سوى صعريس إلى هنا وشراء رجعنا وحبال إسكا كتيرية ويسكا علني لو رجع إن آدمك تدخل وحكون أحسن هدو إلى هاي مالك السي إن تفيد مكو عبور طماح إن ضدك أبارح تباريسن إن تكون تاجر في بقى إلهي مالك كوسي إلهي برتلو قاعد كر زيرو صباح كرس رك خراء أو سداو انتباه شره والسياسة انت فرح الله قلنا مالك يد كبر برا يجينا كبر برا اللواي ما قعدنا حني لها كرتشينا إنه عقل يوسعلي سجنا سعيدنا وحنا مش شيء هدو مالك هاجو عدو هاي ستة إن سومالنا عدة نوتات كل سكرسي حبين ما تشرين تي إلهي بس كترتي تي شعب بقى كترتي حتى الشعب كوه ستين مشير لوي بسنكري شعب كسومال لا تاوي كوي وحول بنا كوحية ما أنت أنا وقاع مسلمين إن بدنا نكاحشون إن السعيد والضبط عاد كسر ريح الحول وعاد في دم يبلا ينوسود إن بدنا نكاحشون ما حشون إن هذيك بعد كتير نين كان عصتها ودجن دلك جبوتي ولا هذا إنه السعيد ويسوي لفتي السياسة السوماليلاند عاديات وجود حجرة ونجي يستدعوا بدن حق الديمقراطية حنا الديمقراطية دي حنا نصعدك على واحد كده صبت كان بدي وراك هذا الله يقول لي هذا economical headman
waddankeena uu ka jiri jiray laakiin waa laga soo afjaray South America wadamada badan Guatemala Argentina iyo Brazil oo ka dhacay economical hitman waxa weeye horena waynu sheegnay waa qof aniga adigoo kala inoo eeg ku hadlaya luqadeeni la shaqeeya dawladda ganacsatada la shaqeeya laakiin hadii jeer ku hadlaya afkii ummadda oo ay dadku run moodayeen waxaan ka hadlayo laakiin systemku uu taagan yahay inay tahay inuu dulmiyo ummadda xaqeedina weejiyo xoog badan la siiyo ganacsatada iyo dimuqraadiga wixii markaa power rabay inay helaan marka waxa weeyaan waxa loo adeegsaday ninka la yiraahdo Faisal wixii loo jiray economical hitman marka wixii la duqeynayo amba lagu duulaan yahay ayaa imika loo adeegsanaya iyadoo ninkan reer Djibouti uu dabada ka wado arrimahaas oo dhan way jiraan gudoomiye Faisal uu noo yimid wuxuu dhimayo waxa wareeyay qaska taagay uu taagay waxa weey waxa doonaya mar saddexaad baan sharxayo muddo ilaahay oo dhan bay doonaysaa waxa doonaya nimayo inay taageerta haday taageeri wadaan way xasidaysaa marka de qof kasta dheeraad ka bax waxaan ku hadlaysaa waa la soo taabsi wuxuu intuu saayay taabsiiyay horta wuxuu taageerayaashii kulmiye taqaanay burcad joogay halkan joogay hadiisa joogay taageerayaashii kulmiye ka soo baxay aanay taageeray waxa kale oo jirta uu ganacsatadii waddankuna oo nin gooriyo magacaabay nin gooriyo maartay ganacsiga waddanka ganacsiga kulana kamid ah runa waa idin sheegay si xun ugu jira siyaasadda waddanka si xun ugu jira ma si wacan ganacsatada kale waddanka way ku jiraan siyaasadda ganacsatadu way wada taageeraan maartay kambaniyada waddanka ka jira businesska ku jira xisbiyada way wada taageeraan maartay waxay contribution way wada siiyaan waxa ay qaran loo baahan la caawiyo dhismaan oo markay campaign ku jiraan ay wada siiyaan haday doonaan u kala badiyaan because interest of the state waa laakiin wada taageeraan oo maartay business iyo politics ko always ma kala baxaan laakiin ninkan in this particular man Faisal noo refer garanayo la uu taageeraya si xun ugu jira politics Soomaaliya sharciga waddanka hore loogu jeediyay sharciga waddanka ganacsiga ayaa hore loogu jeediyay loo baabiyay oo waxa la gaarsiiyay ilaa xad in la yiraahdo hebel ma keeni kara timir hebel baa keeni kara adigu you cannot do business ayaa dadka kale lagu hebel baa keeni kara timir kulmiya xisbigooda way ka soo baxayaan oo ay taageerayaan jamaal cali xuseen oo la socday hamhamta iyo waxa ka jira suuqa iyo galankalka weyn ee lagu leeyahay gudoomiyaha maxkamadda sare isagoo hore u soo joogay gudoomiyaha maxkamadda sare ee go'aamadii soo qaatay ee hore u soo aragnay ajiladaheedii hore waxa uu shir jiraayad oo qabtay uu ka codsaday in ay ilaahay ka baqaan xukunkiisana si cadaalad ah ay u eegaan aynu eegno jamaal oo arintaa ka hadlay marka waynu eegaynaa cadaaladdan sugaynaa nimanka halkaa dee gudida ahna nin walba ilmuu dhalay ilmihiisa ma jeclay dulma lagu sameeyo Somaliland na waxa weeye dimuqraadiyadda aynu samaysanay inay inoo hirgasho oo ay noo socoto oo dal noqoto ay niman dad badan way galaafanaysaa kuwa dabada ka soo wadan way galaafanaysaa waxaan leeyahay waxaan ilaahay baa haya kursigana ilaahay baa haya أنا كورس هو على الماينو حدينا لقى بدي يوم نسكت تجينا ما بدون أن عرض نحطه مركلته مركو رابن والون وحنيدي شيء وحي أنا ورنيك على لقلي وحن لقلي ومد حسب دم أنا لقلي سجنا ما أنت دوحة وكده ده واد وين كار كاي مركو 7 سبتمبر شن لباتن كيدي لباتا كن يلحية طبعا أي واحد فرديستي maxkamadda sare oo hogaaminayo gudoomiyahooda Aadan Xaaji Cali oo ku dhawaaqay xukunkii inta badan laga duursugay ee u dhaxeeyay ucid xukunka uu meesha ka jeediyay oo uu in badan soo araartay hadeen u soo noqono mucda iyo dulucda oo xukunku xambaarsanaa waxa uu sugay in badan oo kamid ahayd xukunkii isaga ka horeeyay oo ah in guddi soo qaban qaabiso ergooyinka in shir aan caadi ahayn lagu baaqo in ergadu shirka soo xulaysa ee ergadu ay isleekaato in isku mid ah in la keeno waxaanu xagga dambe ka raaciyay in yaro trick ah ama khiyaamo ah oo uu ku sheegayo in marjaca ama meesha loo noqon doono ee ugu dambaysa go'aanka ugu dambana leh ay tahay
hoggaanka xisbiga ucud oo wax wal oo la soo saaro ay teedu ay magaraysa ka xoog badan tahay bal horta aynu aagno isagoo ku dhawaaqaya xukunka maxkamadda sare ee jamhuuriyadda somalilan waxay qayb ahaan aqbashay asbaabta rafcaanka ee rafcaanlaha iyo qareennadiisa ee ku taariikhaysan 13 bisha 8aad 2016 iyo doodafeedkoodaba waxay sidoo kale qayb ahaan aqbashay jawaab celinta asbaabta rafcaanka ee rafcaansanayaasha iyo qareennadooda ee ku taariikhaysan 16 bisha 8aad 2016 iyo doodafeedkoodaba waxay burisay qodobka saddexaad ee go'aanka guddiga diiwaangelinta iyo ansixinta axsaabta qaranka sumadiisuna tahay guddiga diiwaangelinta ururada iyo axsaabta 3-219-2016 kuna taariikhaysan 21 bisha 7aad 2016 waxay wax ka bedeshay qodobka koowaad iyo labaad ee go'aanka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo axsaabta qaranka ee sumadiisa iyo taariikhiisu kor ku xusan tahay waxay xukuntay in xisbiga ucud qabsado shirweyne aan caadi ahayn muddo 60 maalmood gudahooda oo ka bilaabanta maanta oo ay taariikhdu tahay 25 bisha 9aad 2016 sida uu dhigayo qodobka 25aad faqradda labaad ee xeer number 14 2011 si loo horgeeyo heshiiska labada dhinac ay wada galeen waxay xukuntay in ergada shirweynahan caadiga ahayn loo raaco xeerka xisbiga ucud sida uu dhigayo qodobka 12aad faqradda 3aad ee xeerka xisbiga in labada garab ay howlgeliyaan guddi qabanqaabo sida uu dhigayo heshiiskoodu oo ku cad qodobka afraad guddiga qabanqaabada shirweynaha qodobka 6aad guddiga qabanqaabada shirweynaha aan caadiga ahayn tiradoodu waxay noqonaysaa 10 xubnood oo ay si isleeg u soo magacaabayaan labada dhinac waxaana marjac u noqonaya hoggaanka sare ee xisbiga ucud wuxuuna yeelanayaa hoggaanka sare ee xisbiga ucud awoodda go'aanada kama dambaysta qodobka 7aad waxay ayiday qodobada 4, 5, 6, 7 ee go'aanka guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta qaranka ee sumadiisa iyo taariikhsuba kor ku xusan tahay xukunkan waxaa loo cuskaday qodobka 25aad faqradda labaad iyo qodobka 29aad xeer number 14 2011 iyo qodobka 12aad faqradda 3aad iyo qodobka 16aad faqradda koowaad ee xeerka xisbiga ucud iyo heshiiskooda dhinacna wax qarasho looma soo qaadin xukunkani wuxuu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 25 bisha 9aad 2016 dhinaca kale xukunkan waxaa soo dhaweeyey musharaxa xisbiga ucid jamaal cali xuseen oo ku tilmaamay muuqaalkan hore inuu yahay mid fiican inarku xagga dambe ka arki karna isagoo marka dambe u galaacayn doono laakiin bilowgii horta wuu soo dhaweeyey isagoo u arkayay bal intan uu sheegay inay macquul tahay in la fulin karo aynu agdo jamaal maanta go'aanka halka ka soo baxay waxa weeyaan heshiiskiini baa hirgelinaysa heshiis baa la galay heshiiskii waa la hirgelinayaa weeyaan macnaheedu waa go'aan weeyaan maxkamadeed guddi loo dhan yahay guddi qabanqaabo labada dhinaca ayaa hirgelinaya ayaa la yiri qodobadii hore ee ay guddiga diiwaangelinta iyo asxaabta qaranku soo saareen sidii baa loo hirgeliyay xisbigu inuu laba garab ahaa oo laba garab ay soo saareen laakiin dhinaciisa waxaa aad u soo dhaweeyey cali guri oo u arkayay in ay tahay guul marka loo eego isaga miisaanka uu ku dhex leeyahay xisbiga isaga oo sheegay in marjaca loo noqon doono ee dambe uu yahay isaga iyo maadaama uu yahay guddoomiyaha Faysal Cali Waraabe isagoo ah guddoomiyaha saddexaad ee xisbiga maadaama kii koobaad iyo kii labaad aanu jirin midna uu dhintay midna xukunkii uu iskaga tegay iyo Cabdinaasir iyo golaha dhexe ninka haysta sabca ay intaasi ay awood isleeg ay leedahay oo aadna ugu farxay isaga iyo Faysal oo maanta awood isku mid leh go'aan maxkamad sarana miyaad ogoshahay mise ma ogolid su'aal maaha waa go'aan aan rafcaan cidina ka qaadan karin oo kama dambaysa nuxurkii annagu aannu u jeednay wuxuu ahaa badbaadinta xusbiga ucid marka aad danaha shakhsiyaadka ka tagto heshiiskanina kama salguurin badbaadintii xusbiga ucid
waxaannu ku soo biyo shubanayaa in labada dhinac ay si wada jir ah u dhaqangeliyaan heshiiskii ay wada galeen 2012 heshiiskaasina wuxuu ahaa kii aannu isku haysannay murankuna ka qabsoomay waxaa kale oo iyadana uu heshiiskani caddaynaya in marjacu u noqonayo guddida 10ka ah ee 10ka xubnood ah qabanqaabada shirweynaha inuu marjac u noqonayo hoggaanka sare hoggaanka sare waa ayuun baan doonayaa inaan iftiimiyo waxa weeye 1 guddoomiyaha 2 guddoomiye ku-xigeenka saddexaad oo aniga ah 3 ku-xigeenka xoghayaha oo cabdinaasir ah 3daa xubnood baa ka jira hoggaankii waxa isna dhinaciisa soo dhaweeyay gudoomiyaha waxa isna dhinaciisa soo dhaweeyay gudoomiyaha xisbiga ucid Faysal Cali Waraabe isagoo saaray tafsiir ama si uu isagu u micnaystay oo gaara oo aan meesha laga sheegin oo ku tilmaamay sida qodobka 12aad ee uu sheegayo 2002 lagu qabtay shirweynihii saddexaad in dadka meesha ka soo qayb geliya ay yihiin oo kaliya ergooyinkii yimi iyo qolihii dhexe ee lagu doortay iyadoo aan jirin wax rikoodha oo laga hayo dadkii hore u yimi oo ay horeba u sheegeen maxkamadda sare iyo diiwaangelinta ururada iyo komishanka qaranku ergooyinka inaanay wax qof ah oo la aqoonsan karo aanay ka haynin maxkamaduna ay hadda tiri waa in dad cusub loo yeedho haddana Faysal oo turjumaadiisa isaga u gaarka ah wadaya aynu eegno go'aankan wuxuu raacay wixii markasta anagu aan lahayn anu marna maanu diidaneen in Jamaal iyo 7 qof ka yimi udub inaan heshiis la galay marna maanu diidaneen inuu Jamaal nala shaqeeyay markuu xisbigu soo baxayay laakiin waxaan markasta lahayn war heshiiska la raaco heshiisku wuxuu dhamaystirmayaa marka la horgeeyo shirweyne aan caadi ahayn hadda waxa la isku soo noqday waxa weeye in shirweyne aan caadi ahayn la qabtaa loo raaca xeerkiisa qodobka 12aad oo sheegaya shirweyne aan caadi ahayn waxa ka soo qayb galaya golihii dhexe iyo ergooyinkii ka soo qayb galay shirkii saddexaad ee 2012 hoggaanka xisbigana waxa weeye intii halka lagu doortay daba bishii October 2016 ayaa garabkii Jamaal Cali Xuseen isagoo ka duulaya go'aankii ay maxkamaddu soo saartay waxa uu magacaabay 5 xubnood oo soo qaban qaabin doona shirweynaha 5 xubnood oo kala ahaa Aadan Sultaan Cabdiraxmaan Sultaan Diiriye Xuseen Caynaan Faarax Xuseen Xasan Badmaax iyo Aadan Cali Yunis iyo Cali Maxamed Xasan shantiina wuxuu soo gudbiyay gudoomiyaha Faysal Cali Waraabe marka aynu eegno haddaba guddiga uu magacaabay Jamaal Cali Xuseen waxay hortaagay Faysal Cali Waraabe oo ku dooday xubnaha 5 mid kamida inuu ka tirsanaa ucud oo aanu Jamaal aanu xaq u lahayn habadaana uu ka reebay waxa ugu weyneed uu la jeeday inuu horta muujiyo awoodiisa iyo in uu khilaaf sameeyo sida guddidani ay magaranaysaa u kala kacdo kadib waxa arinta ka cadhooday Jamaal Cali Xuseen oo ku tilmaamay inaanu Faysal xaq u lahayn 5 guddi oo soo magacaabay inuu bedel yiraahdo si aanu isagu aanu xaq u lahayn aynu eegno bal garabka Jamaal oo ganafka ku dhuftay is-hortaaga uu Faysal is-hortaagay isagu warqadan aniga uu soo qoriyay soo bedel xubin kamida sharciga uu codsaday idinku weydiiyo Faysal ayaa markii la diiday in la soo bedelo xubinta waxa uu ku baaqay in uu shir isagu gooni uu qabsan doono 7 November 2016 waxa isna ka falceliyay Jamaal Cali Xuseen oo ku baaqay isna inuu shir u qabsan doono goonidiisa oo ay markaa waxa lagu baaqay 2 shir oo ay kala qabanayaan Faysal Cali Waraabe oo 7 bisha iyo Jamaal Cali Xuseen oo ka horeeyay 6 waxaana labadooduba ay baalmareen maxkamadda go'aankii maxkamadda iyo go'aankii ka sii horeysay ee ururka kala xalinta gudoomiyaha guddida diiwaangelinta ururada iyo ansixinta asxaabta qaranka Cabdirasaaq Ciyaale
ayaa dadafayey labada shir isagoo ku tilmaamay labada shir inaanu midna aanu ahayn mid jira waxaa laga soo saaray labada shirna ay yihiin xaaraan waxaanu ku tilmaamay inay labadooduba ay isku tagaan mishan guddi ay magacaabaan ay midoobaan laakiin hadday sidaa kala tafraaruq ay ku yihiin labada shirba ay yihiin xaaraan bal aynu eegno cabdirasaaq ciyaale oo arrintaa ka hadlaya guddida diiwaangelinta waxay faraysaa labada garab ee xisbiga ucid inay joojiyaan labada shir ee ay ku kala dhawaaqeen oo aan midna waafaqsanayn sharciyadda waxaana la qaban karaa oo keliya shirkii ku xusnaa qaraarkii maxkamadda sare inta aanay dhammaan muddadii 60 cisho ahayd ee ay cayintay sidaa darteed waa inay labada garabo u hoggaansamaan amaawiirta guddida waaqa ka soo baxay guddiga diiwaangelinta waxaa kal iyo laab u soo dhaweeyey garabka Jamaal Ali Xuseen cali guray oo hadlay ayaa aad u soo dhaweeyay kuna tilmaamay inuu yahay kii macquulka ah wuxuu ku tilmaamay shirku isagu ku baaqay iyo kan kaleba inay yihiin xaaraan marka garabka Jamaal Ali Xuseen aad bay u soo dhaweeyeen waxaan leenahay waa sharci ha go'aan kari waa sharci shir kasta ka xataan anu ku dhawaaqnay waa qeyr sharci kan maxkamadda oo keliya kan maxkamaddu waxay waafaqday uun kii guddida diiwaangelinta guddida diiwaangelintuna waxay raacday uun heshiiskii hore aan u wada galay ee golaha iyaga dhexe ansixiyey shirku shir murmaya maaha isaguna wuxuu doonayaa intuu makhaayad yar la tago inamo makhaayad yaroo inaadirkile intuu inamo la tago inuu yidhaahdo waxaanu gaadhnay shir baanu qabanno Jamaal Ali Xuseen waa laga qaaday cali gure waan ka qaaday anigaa musharaxa anigaa guddoomiye ah anigaa kana anigaa golo dhexe ah waalida cas baa la yidhaha ma shaqaynayso waalida cas dhinaca kale guddoomiye Faysal Cali Waraabe oo aad uga muuqatay kalsooni maadaama uu ku kalsoon yahay ama awood weyn uu ka haysto garsoorka iyo fulinta waxa uu ku qoslay hadalka ka soo baxay ina ciyaale iyo guddida diiwaangelinta oo iyagu dastuurku xaq u siiyay waxaanu ku tilmaamay inuu shirka isagu qabsan doono ina ciyaalana aanu awood u lahayn aynu eegno bal Faysal oo arrinta ka hadlay guddida diiwaangelinta arrintu way ka timi hadda waxay saarantay maxkamadda ayaanu go'aaminaa saa u sheegay guddoomiyaha magaalada guddida diiwaangelintuna anagu sharcigii iyo qaraarkii maxkamadda ayaanu fulinayna qodobu leeyahay waa bila sharci isaga sheegi doonaa ku bila sharci ku yahay arintuna hadda uma taalo arinta waxa taala inaanu fulino go'aanka maxkamadda waanu dhacay xusbigu shir weynaysan caadigeyn bisha 7 dhacay hadii la yiraahdo isniinta cid joojin kartaana ma jirto gudidaas awood uma leh ku joojiso qaraarka maxkamadda qameelu ka soo gala ma jirto in ciyaaliye gudiso qaraarka xusbiga in maxkamadda mana soo firgelin karo maxkamadda go'aankeeda waxay noo soo joogtay iyadoo ay meesha ka jiraan laba taxaddi ama laba car iyo car oo hadda ay noqotay Faysal iyo sharcigi ina ciyaalo guddiga ansixinta ahaa iyo Faysal oo yigi kuma dhacdid haddaba markii la gaaray isniintii 7 bishii 11 2016 waxa si badheeda uu Faysal u qabsaday shirkiisii waxaana ka soo qayb galay dad aad u badan waxaana marti sharafta ka soo qayb gashay kamid ahaa Maxamed Kaahin oo ah ku-xigeenka ama guddoomiye ku-xigeenka koobaad ee xisbiga talada haya ee kulmiye waxaana halkaa lagu tuuray markii ugu horeysay shirkii ay kala saxeexdeen Jamaal iyo Faysal oo dadkii halkaa ku yimi ay ku tuureen kadibna waxa loo doortay Faysal Cali Waraabe in uu yahay musharaxa dhabta ah ee xisbiga ucid u baratami doona balaynu eegno shirkaasi soo dhacay raxiinta u taagan tartanka murashaxnimada ee xisbiga ucid waxaana tartankaasi isu soo taagay 3 murashax waxaana ay kala hayeen injineer Faysal Cali Waraabe Maxamed Jaamac Cabdi iyo Xaamud Axmed Marow oo isagu markii dambe tanaasulay intii aanay cod bixintu bilaabmin anigoo magaranayay u tagnaa jagada madaxweynaha waa ka tanaasulay waxaan u tanaasulay Faysal Cali Waraabe iyadoo halkaas ay isugu soo hareen
injineer faysal cali waraabe iyo maxamed cabdi jaamac oo ku tartamay jagada murashaxnimada madaxweyne xisbiga ucid ugu dambeyntiina maxamed xasan khayr rashabaash ayaa ku dhawaaqay natiijada cid loo doortay inay noqoto murashaxa xisbigaasi. injineer faysal cali xuseen waxa uu codeeyay 393 kii goobta fadhiyay maxamed jaamac cabdina waxa uu codeeyay 730 xubnood laga bilaabo imika murashaxa xisbiga cadaaladda iyo daryeelku waa injineer faysal cali xuseen hadda dadku foodkeysiyay iyo kuwa iga footeeyba waa dimuqraadiyadda ka mid tahay أنا أدعي لا يستطيع عبد الحنان عقل لا يستطيع لكن لا يستطيع وانكوي له هذا شريت وحين شعدروها ما وحى كهذا كرع عبد الحنان عقل وضنا شعدرك هذه نما كلاو بقول يكوي كنت يو هذا نقوله لحد لحد بقول ما نقول كذا وعيد الدوران waxaa isna maalinta iyaguna shir qabsaday garabkii oo hogaaminayay Jamaal Cali Xuseen oo u badnaa ama xubnii ugu badnaa ee ahaa ucid laakiin waxa laga hor istaagay Jamaal Cali Xuseen shirkiisa inuu qabsado halka shirkii kale isla maalinta uu socday laakiin shirkii Jamaal Cali Xuseen askartu way ka soo saartay waana isku gadaameen meeshii uu magaranaysaa Mansoor oo shirka ka qabsanayay balanaagno Jamaal oo loo diiday inuu shirka qabsado isagoo geed hoosti ku qabsaday waxa laakiin isna garabkiisa ka soo qayb galay xisbiga wadani oo hogaaminaya xoghayaha guud Maxamed Cabdilaahi Urcade bal iyaguna aynu eegno jawigaas sidii hore hotelka Mansoor ee magaalada Hargeysa waxa si rasmi ah maanta uga furmay shirkii aan caadiga ahayn ee ay ku baaqeen garabka uu hogaamiyo musharax Jamaal Cali Xuseen kadib markii xukuumadda Soomaaliland gabi ahaanba ku hor istaagtay hotelka Mansoor oo qorshe u ahaa in shirkani lagu qabto saa kadib waxa sare joog lagu qabtay shirkii aan caadiga ahayn oo ay ka soo qayb galeen ergooyin iyo waliba boqolaal dadweynaha oo taageersan garabkani anagu xisbi ahaan runtii waxaan aad iyo aad uga xunnahay oo si cad u cambaaraynayna go'aamadii maxkamadda oo xukuumaddu ay garab martay go'aankii guddiga diiwaangelinta oo ay xukuumaddu garab martay ayadoo si badheedh ah maanta u burburinaysa xisbigii labaad ee qarankani lahaa oo ah xisbiga ucid waxaan u maleynayaa taariikhda oo markii ugu horreysay aan maleynayaa shirweyne xisbi lagu qabto dariiqa horta wax walba taariikh bay leeyihiin markii ugu horreysay shirarkaasina dee shirar maalintan ay ahayn kii balagweelada ogeedeen oo kii burcaydan ogeedeen oo ma garanaysaa wax weligeedba jiri jira bay ahayn dee xeerarka xisbigeena kuma taalo guri hoosti ha lagu qabto waxa ku taalo in waan shir la qabtaa shirkiina wayna qabsanay maanta 4 qodob muhiimna waa inooga soo baxay waa ilaahay mahadi maanta waxa la yidhi horta waxaan aad iyo aad maanta ugu faraxsanahay in aniga wixii aan sheegay layla arkay aniga war in badan baan qaylinay waxa lahaa war in cala waraabe waa keligii maahe ya gacan baa hoosta kaga jirta gacan weyn ayaa hoosta kaga jirta dee horta maanta way caddaatayoo waa cadaalad darradii oo dharkii iska saartay maxamed kaahin axmed uu ka qayb galay shirka noocaas maxamed kaahinna wuxuu inoo sheegaa inuu xaqdarro iyo dulmi uu ka dagaalamay oo uu ka tallaabay wada arkaynay wuxuu noqday xaalkii Soomaaliland la jiifiyaano bannaan balaynu aagno wariyaha aadka u firfircoon ee Xamse Cali Bulbul oo wasiir Faratoon weydiinaya Yaasin Maxamuud Faratoon weydiinaya bal sababta uu u noqday Faysal Cali Waraabana xaq kana uu xaq darro u noqday bal intaasoo kaliya inuu ka jawaabo markuu intaa ka jawaabi kar waayeen intuu cararay uu baabuurkii ku hortay wasiir waxaa jirta go'aan ay soo saartay maxkamadda sare Soomaaliland go'aan ay soo saartay guddiga diiwaangelintu ay ku baaqday labada dhinac Jamaal iyo Faysal inay qabsan karin maanta Faysal qabsaday maxaa khaldan oo uu Jamaal qabsan karin waa shirkaas joojisay shirka waxa loo joojinay oo warqada waa jirtaa anaa qoray anaa saxay waxaana u saxay inaan dhinaca Mansoor aan shirka lagu qaban sababtuna wax kale ma aha waxa weeye sharciga baan ku fariisinay go'aankii maxkamadda iyo go'aankii guddiga diiwaangelinta waxa ay soo saareen ayaan ku fariisinay
wax kale oo dheeraada ma jirin annagu si gaarana ugama horjeedno jamaal iyo maxaa to arrintiisa wax gaar ah oo aan ka wadanayna ma jirto sharciga iyo inta un go'aanada maxkamadda iyo sharcigu soo saaray un bay naga ahay waad wasiir laakiin dadku waxay isweydiin karaan wasiir ugu dambeyn waxaa la leeyahay de maadaama go'aankii maxkamaddu soo baxay oo diiwaangelintu soo baxay la leeyahay labada dhinac bay joojiyaan sababta Faysal aad ugu ogolaatay adoo wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliland inuu shir kaliya qabsado Jamaal aad ugu diiday shacabka Soomaaliyeed sida anagu waxaan u aragnaa in taas ay sharci ahayd taa Jamaal ay maxay to Faysal inuu qabsado oo hogaankii xisbiga maxay sharci ku noqonaysaa Faysal ma qabsado aanay ahayn dadku wasiir cadday sharci wasiir maxay ku noqonaysaa sida aan warqadda ugu soo saaray ayuun baan ugu jawaabtaydu ay tahay oo ugu waxaa mar kale shaashada soo fadhiistay Cabdirasaaq Ciyaale iyo Xasan Macalin oo ah gudoomiyaha iyo agaasimaha hay'adda kala saarista iyo diiwaangelinta ururada ee Jamhuuriyadda Somaliland waxay sheegeen in shirkii uu Faysal qabsaday uu yahay mid xalaala kii Jamaalna uu yahay mid xaaraana waxay cudurdaar ka dhigteen in ay fulinayaan gudoomiyaha maxkamadda hadalkiisii oo ahaa gudoomiyaha wax walba marjaca loo celinayo weeyaan waxaana halkaa ka cadaatay in surmaseegtadii uu dhigay gudoomiyuhu ay weli ku sirgacan tahay hanaan socoshada ama turxaan bixinta xisbiga ucid bal aynu eegno oo aanu caddaynay dadka reer Somaliland maxkamaddu waxay awoodii shirweynaha aan caadigayn gacanta u gelisay hoggaanka ka uu hoggaanku qabto baana sharci oo sax laba shir ma jiro hal shir maxkamaddu hal shir bay go'aamisay halka shir oo gacanta u gelisay hoggaanka ka uu hoggaanku qabto ma sax oo sharci ah Faysal iyo waxbno uu kamid yahay Faysal gudoomiye u yahay gudoomiye ku xigeenada kamida waxa kamida xogaya ku xigeenka ya kamida sida la garan karo Jamaal Ali Xuseen ayaa isla maalinta waxa uu qabtay shir jaraa'id oo uu ku dadafaynayo labada nin ee shaashada soo fadhiistay oo uu ku sheegay in rag go'aan intay soo saareen markii culays fara badan iyo cadaadis fara badan ay kaga yimaadeen xagga sare ay markiiba ay bedeleen waliba shirka aanay joogin balayno eegno ka carshayn meena Jamaal Ali Xuseen Somaliland fawda ka dhacday wax anti dulmi iyo cadaalad darrada tiigu iimaanka darnayd ayaa halkan ka dhacday xukunkii maxkamadda ee markii hore ay maxkamaddu soo saartay sideedii looma fulin maxkamaddu waxay tiri 5 iyo 5 waa in labada garab ee xisbiga ucud ay yeeshaan xisbiga waxa maxkamaddu xaqiijisay oo guddiga diiwaangelintu xaqiijisay in ay laba garab soo saareen oo heshiis lagu soo saaray heshiiskaasi ayuunbaa fulintiisii ama ansixintiisii qaybtii ugu dambeysay iyadoo heshiiska 90% uu fulay leeyahay waa in lagu ansixiyaa waa sida u dhigay hadda hadalka waa in lagu ansixiyaa ayaa leeyahay sida xukunka maxkamaddu u dhignaa waa in lagu ansixiyaa macnaheedu waxa weeye waa in gacanta loo taagaa oo dee waa heshiis fulay oo xisbi ku soo baxay ayay ahayd waxaa la yidhi 5 iyo 5tii ha laga shaqaysiiyo taasi may dhicin oo waxa dhacday shir uu Faysal Cali Waraabe soo malmaluqday keligii ay ku baaqay guddiga diiwaangelintu shir labada markay shirka ku baaqday anaguna shir kale aan ku baaqnay labada iyada shirba waxay tiri labadoodaba ma aha laba shir oo sharci darro ah weeyaan haddana waxa ayaan darro ah in shalay toole guddiga diiwaangelintu iyadoo wax allaali waxay ku salaynaysaa aanay jirin inta tiifiyada la soo fadhiisatay ay tiri shirkii sharci buu ahaa hadda shirkii hore ee heshiiska lagu ansixinayo maalintii hore ma joogin ba caalamka lama arag dad shir aanay joogin iyagu oo waliba 24 saacadood ka hor ay yiraahdeen waa sharci darro in haddana ay marka dambe iyagoo aan fadhiinba ay yiraahdaan sharci buu ahaa waxaan ognahay ergooyinka Faysal Cali Waraabe u fadhiyay inaanay ahayn 2012 ilaahayna waa ogyahay ummaduna waa wada arkiisay dad yar oo imika xisbigaba aan hore ugu jirin oo bari dhaweed xataa qaarkood u magacaabay ayuu yiri oo 2012 joogin ayaa yiri gacantay taagayeen war heshiis dhan oo ummadii ay xisbi lagu soo saaray oo xoog la geliyo cod ku soo baxay
damaanta intuu in Faysal Caroobe afar yar intuu meelaha ka soo urursado ilaa heshiiskii baanu diiday wixii baanu diiday waxaas waxaanu aqbalayno maaha ama yeelayno in aan mar dambe dacwad saddex dacwadood oo kala gaar ah aan ku dacweyno mid waa Faysal Caroobe shakhsiyan kaliya inuu na khiyaameeyay oo tuug yahay talabaad waxaan hay'adihii dawladda ee sida sharci darrada noo maartay nooga hiiliyay ee shirkayagiina ka hor istaagay shirkiisina u fasaxay ee booliiska u diray taasina waa dacwad noo gaar ah dacwadda saddexaad waxa weeyaan fulintii xukunka maxkamadda oo aan sideedii loo fulin uu Jamaal qaatay waxa kale oo la qaatay intellectualkii ama aqoon-yahanadii dadkii Jamhuuriyadda Soomaaliland oo la yaabay go'aankan ugubka ku ah dadku aad u fara badan aynu soo qaadano Marwo Faadimo Saciid oo ururka wax ka soo aasaastay xilligii Jamaal iyo xildhibaan ku jira golaha baarlamaanka Saciid Cilmi Rooble anta markay dawladdu ganafka ku dhufatay in komishankii dhamaa ee diiwaangelinta ee ganafka ku dhufatay Supreme Court-kii oo ah maxkamadii ugu sareysay ee Somaliland ee ay tiri annaka intaba isku wada qaadanayna annakaana intaba maxaa haydeen ka jawaabayna ee ay garabka si xaq darra ah oo axmaqnimo ah ay u saartay in Faysal waxa weeyaan nasiib darro u soo hooyatay ku habsatay Jamhuuriyadda Somaliland heshiiska la galay waxa weeyaan maalintii uu Faysal Cali Waraabe uu yimi Jamaal wuxuu ku yiri Jamaalo xisbiga ila soo saar musharaxna noqo ana gudoomiyihii baan noqonaya xisbiga maanta adeerkiisa Jamaal garabkiisa baa soo saaray hiil iyo hoobaanu isla baal taagnay guddiga maxay ahaydeen oo Cabdirasaaq ciyaalo uu ka mid yahay ma soo fadhiisiyay ma yiri bal maxay ahayd maxaan aan idin wax idin la qabano ma weeyaan maxkamadda sare ma isku keentay dadkana ma tiri ma weeyaan markay leeyihiin way isku iman kari waayeen oo dabeetana garabkan aan raacnay adigoo abaad raacaysa mise miyaanay ahayn gardarre garab og markuu qofku uu og yahay in isaga la wato ee isaga lacagtii lagu shubayo inta xukuumad ee Faysal ka qayb gashay waad arkaysay imisa ka qayb galay xukuumadda sidee wada dhantay waa dul fadhiday riyaha wada maqleen wax xisbiga u cid haysta waxa la leeyahay waxa haysta xisbiga u cid wax kala ma waxa xisbiga u cid haysta waxa weeye libin uu ka haysto Faysal xukuumadda iyo xisbiga kulmiye waxa la leeyahay wax kale haysta ma jiro dhibaatadan haystaan waxa weeye markay xukuumadeena aynu doonanay nooca ku dhaqanto deegel duqbaa loo timaayay halkii noo hadhaynu ku eersanayno anigu garan maayo institutions baa jira qaranku leeyahay oo ina kala ilaaliyade ilaa haddii kale qabaylkii sidii shalay baan noqon lahayn shalay soo qolo walba control ma lahayn controladii waxaynu u baabinay aynu dastuurka u samaysanay waxa weeye inaynu aynu dawlad noqono haddii kale nin walba controlkiisii baa haysan lahaayoo deetana salaale deetana dastuur baynu samaysanay shuruuc baynu samaysanay shuruucdii haddaba xisbiyada iyo kuwii kaleba xukuumadduna way jebisay ta ugu jebis badan shuruucda dalka ee ugu jebis badan dastuurka dalka waxa weeyaan waa xukuumaddan maanta ka dhisan qaranka ee kulmiye aynu marayno waxaynu soo aragnay in lagu been abuurtay gudoomiyaha maxkamadda sare oo ay ku been abuurtay Faysal Cali Waraabe iyo Faratoon oo labaduba ay yiraahdeen go'aankiisii baanu fulinaynaa go'aankiisiina aanay fulinaynin oo aanu ka hadal shaashadan aanu soo fadhiisan horta intaynan talaabada ku gudbin aynu aagno bal iyadoo laga been abuuranayo oo isna uu ka helayo hadda waxay saarantay maxkamadda ayaan aanu go'aaminaa saa u sheegay gudoomiyaha magaalada guddida diiwaangelintuna anagu sharcigii iyo qaraarkii maxkamadda ayaanu fulinaynaa qodob uu leeyahay waa bilaa sharci isagaa sheegi doonaa ku bilaa sharci ku yahay arrintuna hadda uma taalo arrinta waxaa u taallaa inaanu fulino go-aanka maxkamadda waanu dhacayaa xusbigu shirweynihiisaan caadigeyn bisha 7 u dhacay haddii la yidhaha isniinta cid joojin kartaana ma jirto guddidaasna awood uma leh ku joojiso qaraarka maxkamadda
qameelu ka soo galaa ma jirto inay ciyaaliya guddiisa qaraarka xusbiga ee maxkamadda mana soo fargelin karo maxkamadda go'aankeeda u joojinay oo warqadda waa jirtaa anaa qoray anaa saxay waxaana ku u saxay inaan dhinaca Mansoor aan shirka lagu qaban sababtuna wax kale ma aha waxa weeye sharciga baan ku fadhiisanay go'aankii maxkamadda iyo go'aankii guddiga diiwaangelinta waxa ay soo saareen ayaan ku fadhiisanay wax kale oo dheeraad ah ma jirin anagu si gaarana ugama horjeedno Jamaal iyo maxaato arintiisa daba marka kaliya ee uu diiray ee uu xanaaqay gudoomiyaha maxkamadda sare Aadan Xaaji Cali waa markii uu Faysal uu yiri xukunka uu xukumay gudoomiyaha maxkamadda sare wuxuu ahaa xukun qarboosh aan cadaalad ahayn oo ah cali mahdina garle caydidna garle kelmadda uu soo hor fadhiistay shaashadda iyadoo ka habooneed inuu soo hor fadhiisto raggii mas-uuliyiintaha ee xukunkiisii ka been abuuranayay aynu eegno isagoo arrintaasi aad ay u dabaqday maanta waxaan idinku yeernay waxaa jira arrintii go-aanka ay ka gaadhay maxkamaddu kayskii uu la xidhiidhay weydinkii ogaa kayskaasi aad buu marka hore wuxuu nagu yimi rafcaan oo mu ahayn dacwad ay maxkamaddu bilowday wuxuu noogu yimi rafcaan ahaan markaa dacwadduna markay rafcaan ku timaado waxaan doonaya halkaa inaan sharaxo maxkamadda sare dacwado badan baa ku yimaada rafcaan oo loo soo ambiil qaata waxay ka yimaadaan maxkamadaha Hargeysa gobolkii degmada iyo kuwa rafcaanka togdheer sool sanaag awdal dhulkoo dhan bay ka yimaadaan markaa dacwaddu markay dhammaato maxkamadda sare waa halkii ugu saraysay galka iyo dacwadda waa la celiyaa waxaa lagu celiyaa maxkamaddii soo bilowday dabeedna iyadaa fulisa marka iminka dacwaddan ucud oo kale waxay nagaga timi guddiga diiwaangelinta markaanu anagu xukunkoodii baanu eegno laga cabanayay oo rafcaan laga soo qaatay wax xukunkoodii baanu wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyay wax ka bedel iyo kaabis maanu taaban dabeedna galkii waxaanu celinay sida aanu maxkamadaha kale ugu celino waxa galkii aanu u celinay guddiga diiwaangelinta 5tii bishii 10aad 2016 oo uu noo saxay gudoomiyaha guddiga diiwaangelintu sababtoo ah iyaga fulinaya iyaga ilaalinaya iyaga markaa dabagelaya xukunkaasina koodii buu ahaa laakiin maxkamaddu wax ka bedel iyo kaabis bay ku samaysay marka iyaga laga filayaa inay fuliyaan oo ilaaliyaan oo way garanayaan intaas sharci yaqaanada labada dhinac la talinayna way garanayaan marka dhinaca marka la eego maxkamadda uma taalo shirarka axsaabta annagu ma maamulo ma diiwaangelino liisaskooda ma hayno shirarkooda ma xaadirno hadduu dhibaato ka timaado ma yimaadaan waxaasoo dhan waa shaqada guddiga diiwaangelinta oo iminka maalintii tusaale ugu dambeeyay shirkii wadani way fadhiyeen kii kulmiyay fadhiyeen shirarkan ay u cud iminka labada garab oo kale ku kala baaqeena iyaga laga filayaa inay ilaaliyaan oo ay ma garanaysaa u eegaan sharciga xeerfoodin sida uu siinayo qodobada awoodda siinaya iyo go'aankii iyagu ay soo saareen ee wax ka bedelkii kaabista ay ku sameeyeen maxkamadda sare ay ku samaysay iyo xeerar kale dalka u yaala marka iyaga eegaya shirarkan lagu baaqay ma sharci baa shuruudii ma buuxinaysaa habkaa loogu baaqay ergadu siday yihiin maxaa lagu salaynayaa waa shaqadooda waayo maxkamaddu dee urur lama xidhiidho annaga dacwadda iyaga ka timaado ma rafcaan noo timaada markaan go'aan ka gaadhno waanu celinaa galkii oo dhammaystiranna xilligaan idiin sheegay 5tii bishii 10aad ayaanu guddiga diiwaangelinta galkii oo dhammaystiran dib ugu celinay marka taa waxaan doonayaa halkaa u caddeeyo maxkamaddu meel laba kama soo gasho fulinta xukunkii ay soo saartay xukunkaana mid ay iyadu bilowdo maxkamadaha ka bilaabmay mu hayne mid ambiil rafcaan ku yimi buha arrinka ugu dambaysa marka waxaan uga digayaa oo aan in garsoorka lagu soo degdego waayo garsoorku waa haybadii qaranka waa supreme courtkii waddanka ugu sarreeyay waa marjaca ugu dambeeya loo noqonayo iminka rag badan oo siyaasiyiin wadamo badan oo kale ku soo noolaayeen marka kuma dhacaan inay aflagaadeeyaan maxkamadda waddanka ugu sarreysa sida meelaha u tixgelinayaan oo u xeerinayaan waxa fiican inay waddankoodana xeeriyaan oo meeshan haybadii qaranka taala waa maxkamad ugu sarreysay waddanka ma aha urur siyaasadeed ma aha siyaasadina halkan ma taalo marka taana waxaan uga digayaa in maxkamadaha iyo garsoorka habka siyaasadda loola hadlo markii gudoomiyaha maxkamadda sare hadalkiisii wuxuu ku soo gabagabeeyay waa in shirka iyo heshiisyada la geliya waa in markhaati la yeelaa waa in hay-adaha la mariya isagoo oo loo keenay faylkii hay-adihii lagu mariyay golihii dhexe wansixiyey
hadduu eebba xukmayo guurtida iyo baarlamaanka iyo dadkii acyaantaha iyo cuqaaladii ay heshiiska goobjoogaala ka ahaayeen uu faysal afkiisa ka qiray oo musharax yahay wax walba iyadoo loo keenay haddana uu hadda ku dacweeyo heshiiska markiisii hore ayuu madmadow ku jiray halkaana waxaa ka soo baxaysa ama inuu darjeegayo ama inaanu si fiicanba aanu u akhriyin ee awood ka sarraysa ay isaga ku timi bal aynu horta eegno guddoomiyaha way isbedbedeshaa marka hadii jaraal waxaan kula talinayaa siyaasiyiinta anagu siyaasiyiin ma nihin in heshiisyaday galayaan ama imika ha galaan ama mustaqbalka ha galaan ama hore ha u galaan inay aada uga fiirsadaan inay dabadeedna wixii shuruud ku xidhan ansixiyaan inay xeerarkooda u eegaan inay xeer foodhiin u eegaan inay xeerarka waddanka u eegaan waayo hadhow toole siyaasaddu male saaxiib joogtaa mana le ma garanaysaa waxay leedahay masaalix isbedbedesha dad maanta honeymoon ku jiro isjecel baa berri iska hor imanaya marka shayga keliya ee ku anfacaya waxa weeye inaad waxaaga si fiican u ilaashato sharciga u eegto shay walba meel walba la dhigo la diiwaangeliyo guddiga diiwaangelinta loo dhiibo xeeraanta loo dhiibo hay-adaha garsoorka oo dhan loo dhiibo waayo berri siyaasaddu way isbedelaysaa dabadeedna hadhow garsoorka iyo dadkan garnaqaya way ku adkaanaysaa inay waxti raacaan markaad maanta adigu waxaaga geyn weydo wixii shardiya qodobana jirana ansaxso heshiisyada la gelaya waa inay kuu dhammaystirnaadaan siyaasaddu san ahaan mayso hadhow toolana dhibaatay ku noqonaysaa hay-adahan garnaqa ama guddi ha ahaato ama maxkamad ha ahaatee inay tix raacaan arrintaasina waa midaan si guud u farayo oo waxa weeyaan dee waa in imika idinka arkayo axsaabtu heshiinayaan qolaa guuraysa qolo kale qolo heshiis la gelaysa wuxuudu waa inay sugtaan waa inay ansixiyaan waa inay xeerarka u eegaan waa inay xeerkooda u eegaan waa inay xeer fadhiyo haddii kale hadhow way ku soo baxaysaa siyaasaddana habab badan baa la isu khiyaameeya oo waxaa jira habab taana waa mid guud oo annagana hadhow dhib bay noo keenaysaayo halkaanu ka soo gelaynaa wuxuu noqonayaa dee hadhow hadduu muran yimaado markay guddiyada diiwaangelinta iyo meelaha soo maraan garsoorkay imanayaan marka garsoorku waa inuu helo wax cadow ka duulo haddaynu in yaroo kaftana raacino jamaal oo aada u xanaaqsan oo ururkiisii laga burburiyey oo ninka burburiyey inuu yahay nin aan isagaba ka fogeyne ma garanaysaa isku ardaaba ay yihiin guddoomiyaha maxkamadda sare hadday suugaanku wada hadli lahaayeen aynu eegno bal siday u hadli lahaayeen utuniya nimaan umar hore iyo aana kugu toogan oo aanad adduunkiisa dhicin adhiyo geel toona oo idan curada aad iyo rag hore kala unuun goosan ayaan quranimaydaan xumaan eena isweydaasa ogoobay amuurta kubada waad ka oloshaa adeed kibir ninkii kugu dila ayaad ka urgootaa kareenka tuhunka iyo raabsigu ka baxaya ma rugtayda keliya qorshe jira adduunkan anba qayb ka fuliyo nimanaan ka yaabaa carre idinka buuxo kuwa wada durduriyo wada duugsin cararaan raqda ula tartamayay haddaan daanka oo qura la dabraacay keligii madiirkii makaan gubi halkaas wuu istaafacay al ilaah gud buu tegey ma daboolo ereyada in la dedo ku qurux badani ku daacad badana duquu wuxuu ka marakacay in dardaaran meel yiil ragna daawo wada galay raba inay dar yeelaan danahooda gaarka ah duquu waxaanu weli garan dadna inuu gilgilashada dana kale kale yahay bismillaah marka aynu si caqli fayow aynu ku eegno go-aankii guddoomiyaha maxkamadda sare waxaynu helaynaa in uu laba khalad uu ku dhacay khalad ah inuu xukunka soo saaray aanu ahayn xukun cadaalada ta labaadna waxaynu arkaynaa in lagu been abuurtay oo waxaan oo dhan inta laga sheegay uu ka aamusay oo uu ku qancay labadaas ayaan doonaynaa si gaara inaynu sigaro deg dega maadaama cajiladu aada u fara badan tahay aynu ku dedejino arrinta hore ee ah xukunka inaanu cadaalad soo saarin waynu arkaynaa guddigiisa ka horreysay see u garnaqday baynu arkaynay waxaynu arkaynay in heshiiskan la galay lasoo mariyay golaha dhexe in jamaal magaranaysa uu noqday musharaxii inuu guddoomiyuhu ogolaaday oo uu sheegay in aan procedurkii oo dhan lasoo mariyey in ay isku yimaadeen cuqaalada labada dhinac oo ay faysal uu damaanad uu bixiyey inaanu jamaal uu yahay musharax intaasoo dhanba uu kasoo dulbooday sidaynu arkayno ilaahay qur-aanka wuxuu ku yigi suuratu nisaa aayadda 8 إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعدكم به إن الله كان سميعا بصيرا ومعنى هذا يهي إلهي وحيد الأمر إن الأمانة ما وحي ليدين ديبتاء قدتان
haddii meel madaxda idinka dhigo inaad noqotaan dad wanaagsan laakiin dad markaad u kala xukumaysaan buu ilaahay yidhi oo xukun aad guddoomiye maxkamadda sare aad ka taho meel xaakim ka tahay waa inaad dadkaad ku kala xukuntaa cadli ilaahay wuxuu kusoo gabagabeeyey aayadda ilaahay inuu yahay kii wax maqlaya wax arkaya ee la socda qofku wuxuu samaynayo waxaa kale oo ilaahay suuratu saad ku yidhi aayadda 26aad yaa daawuuda innaa jacalnaaka khaliifata fi lard فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع هواء فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب إلهي نبي داود بله هذوكي داود وحال أدونك كاردن خليف dadka markaad xukumaysid cadaalad dadka ku xukun oo dadka waxay rabaan iyo hawadooda ha raacin yaan kor lagaaga soo hanjabin yaan lagu caga juglaynin ayuu ilaahay quraanka saa ku yidhi marka labada aayadood khilaafkooda ayuu sameeyey arrintan oo kaliya haddaynu bambaxno waxaynu soo heli karnaa axaadiis aad u fara badan iyo aayado intan ka tira fara badan leh laakiin intaas aynu kusoo koobaynaa intaana waa inuu ku cilmi qaataa weliba aayadda u dambaysa ilaahay wuxuu ku yidhi cadaab adag baan gelinaya bimaa nasuu yowma alxisaab sababtoo xisaabtii ama qiyaamihii ay ilaaween hawadoodii waxay doonayaan ay ku xukumaan markaa horta qodobka uu jabiyey aayadaha qur-aanka aana waxay amrayaan khilaafkoodii buu la yimi xiina sakata ahlu lxaqi can baadil tawahama ahlu lbaadilu annahum cala alxaq وعلي بن أبي طالب أو الله له وحول دتك markay ka aamusaan dadka xaqa ilaaliya ama xaqa ku taagan ama xaqa u heelan ama laga filayo xaqa hadday baadilka iyo waxaan aan sharciga ahayn ay ka aamusaan kuwii propagandada waday ayaa u qaataba inay xaq ku taagan yihiin oo markaa laga aamusay yidhaahdaan war malaha sidan baaba saxdii ay ahayd taana de sheekadeennan ayaynu kusoo aragnay inta markii faratoon iyo ina ciyaale iyo faysal iyo wax aanu go'aamin markii ay miidiyaha ka sheegeen ay ku celceliyeen ay fulintoodii isticmaaleen uu hadli waayey ilaa haddana la suga haddii lala hadlo iyaga laftoodu markii dambe waxay u qaateenba in ay tahay go'aankii uu soo saaray guddoomiyuhu markaas salafku ama dadkii hore waxay odhan jireen الساكت عن الحق الشيطان الأخرس قفكي وجهري كأمصا شيء شرعية أما شيء وناكسن أو معروفة وحها الشيطان الأخرس الشيطان كي أن هذلين مركا وحلقت مع علماء قفل أو كأمصا افتراء أما وحلقة بين أمورتي أما وحو يجي وحانا حين أما ومدة وحدة بيسو أركيو والشيطان الأخرس والشيطان aan hadli karaynin qof aan hadli karayn marka gudoomiyuhu runtii qodobka isna waa qabanaya wuxuu ka aamusay hadalkiisii oo la bedelayo oo waliba fulintii loo isticmaalay marka halka shaytaan oo akhraska ayuu noqonayaa ama shaytaan aan hadli karayn qodobka saddexaad waxa weeye asukuta can ilmunkar ka faacilihi haddaad ka aamusto been abuurad lagaa sameeyey ama wax xaqa oo inaad tidhaahdo aad ka aamusto adigoo waxyaalo badan u xilanaya waxaad la mid tahay kii sameeyey oo kale ayaad la mid tahay marka halkaa waxaa cad inuu dembiga burburinta uu ahaa ninkii koowaad ee sulmaseegtada sameeyey markii labaadna uu ka aamusay oo qoladan uu laba dembe uu dheeryahay walba tii uu isagu ku soo saaray iyo tii uu kaga aamusay haddaynu eegno horta sukuuta can alxaq waa maxay haddaynu is weydiino ama xaq oo laga aamuso waxay la mid tahay culimmadu bay yidhaahdeen markhaati la qariyey oo kale ayay la mid tahay oo de markhaatiga la qariyana waynu aragno ilaahay wuxuu yidhi fa inahaa athama qalba qofkii qariya markhaati waa dembiile marka halkaasna qodobka afraad haddaynu eegnina waa dembiile weeyaan sababtoo markhaati laga rabay oo inu fura ahayd war sidaa omaan oo dhan ayuu qariyey ayadaasna waa qabanaysaa waa dembiile kuwii horena waxaan kusoo marnay inuu marna shaydaan ahaa marna cali bn abi taalib hadalkiisa aynu soo qaadanay oo ahaa inuu ka aamusay ma garanaysaa bahalkii oo nimankan uu ku kalifay inay rumaystaanba waxoodii haddaynu ka nimaadno maxaa ku kalifi kara hataa culimmadu way hadleen dacful iimaan bay yidhahdeen qofkaasi wax allaaliya wuxuu iimaano aanu lahayn oo qof musuqmaasuq ku caanbaxay oo kale weeyaan
qilata wascu diiniya isagoo aan lahayn awood diineed oo xaddaafa oo qofku hadduu diin leeyahay yacni damiirka qabanaya adduun jacayl bay ku tilmaameen culummadu waxyaalo badan bay taxeen waxaa ka mid ah raaligelinta umarada isagoo yidhaahda yacni si lagu sii dheereeyo shaqada ha kaa raali noqdaan umaradu ilaahayna qur-aanka wuxuu ku yidhi fastakhafa qowmahu fa adaacuuh umaradii baa fudaydsaday oo dadkii halkan iyo halkan kaga yimi oo u cagajuglayay kadibna way raaceenoo way dabagaleen halkaasuu soo geliya haddaba waxaynu ku soo gabagabaynaynaa qofka oo laga been abuurto waa maxay horta qur-aanka ilaahay markaynu aynu eegno ilaahay wuxuu ku yidhi waman adlama miman iftaraa cala ilaahi kadib yaa ka dulmi badan in ilaahay been ka sheegay ilaahay horta dembi adduunka ugu culus waxa weeye ilaahay oo waxaan ogan aad tidhaahdid taana ilaahay qur-aanka uu kaga hadlay mar wal oo ilaahay waxaanu ogan uu qur-aanka ku soo gudbiyo ilaahay haddana wuu beeniyaa sababtoo ah xaqii baanu alla aanu ka aamusin waxaa ka mid a ilaahay wuxuu yidhi waqaalat yahuuda wannasaara naxnu abnaa'u llahi waaxibaah yuhuud iyo kristaan buu yidhi ilaahay waxay yidhaahdeen waxaanu nahay ciyaalkii ilaahay ee u jecjeclaa ayaanu nahay ilaahay uu ka hadla wuxuu yidhi qul falima yucadibukum bidunuubikum haddaad tihiin ciyaalkii ilaahay bal maxaa haddaad dunuubtiina iyo dembiyadiina laydinku cadaabayaa marba laydin halaagaya bal antum bashar miman khalaq dad caadi oo basharkaa ka mid ayaati yuhuudoo kale ilaahay markuu soo gudbiyey waxay waqaalat yahuudu yadillaahi maqluula bayna gacanta ilaahay way xidhanta waxa ma bixiyo ilaahay muxuu yidhi qullut aydiyahum walucnuu bima qaaluu bal yadaahu mabsuudataani liman yashaa ilaahay gacmihiisu waa furan yihiin oo way bixiyaan iyaga gacmahooda hala xidhxigo ilaahayna halkaa ku ceebiyey markaa mar walba qur-aanka waxaad ku aragtaan ilaahay hadduu soo gudbiyo qur-aanka oo ku sheego iftiraa wuuna beeniya markaa waana caqiida islaama oo dadka salafka oo dhammi cisma bin cafaan baynu arkaynay markii lagu soo duulay ee hadal la yidhi intuu haluu mimbarka fuulay ayaa wax allaali waxay ku soo eedeynayeen oo dhan wada beeniyey u isdifaacay qofku ma garanaysaa marka laga been sheega oo kalena sidaasay culimmadu intay yimaadaan sida cismaan oo kale ayay beenin jireen laakiin waxaynu arkaynaa marka keliya damqaday uu soo fulay waxay ahayd markii uu jamaal ku yidhi waar xukun xuno cadaaladaad qaaday markuu hadlayay hadalkiisii xitaa kumuu soo darsan waa nimankana way iga been sheegeen anagu waxaan maan ogan lamana socdo mana ogi hal eray oo dadafayna haddii laga helo yacni ma garanaysaa wax allaali waxaan soo dubo dhamo waa ka kac weeyaan marka aynu sukuuta can ilxaqi ama xaqii uu ka aamusay oo uu hagaraday isna intaas aynu kaga baxayna